جزاكم الله خير. إخواني هرتينا وحيا لأبواق فربضن عبد العزيز حلبان وحكلو جوجا أبتدون وسوون قراءة صدق هذا البوق بأمرك إن شاء الله وحيرو كوبا عن كده هي ودابعات دي لبعضها ودابعات كواد وحيصوب هذا لبعض يكون سديدي يا بوق جهري صباح فرح جناحسجا وحيوقع دور سنة إن أنقره سأنا رجي مركور اللي وداعي إن أنقره وأن جهد أنا شقيستا وليبا business development manager هيدا مشاركي صدني دور كوني هاي بانك تجي سيان بوقا أقرأ تيم بيوقع العجا يرين بانجلي درين باي وذي مرك وأنا رجع مركري ودوق شيء كيني وحي مقطعين إن أمم كهرني مرك وحان السري أدوق محاكي جيسن كرتا أمم كهرني مرك نقطعين إنه يا سمي سنه نلل إنه كافتون إنه كتير سنان تعيرته إنه يلا شق إنه أبورنا جناحسيه إن قفكو إلا حر النقطة ماشى نلوش دخلي سكسوق له حر معها تو بنفيت كتير سيء هاي دبر باكو حران نلوش صدق ضد كلا يقعد سوق شرته إن طبعا قفكو حرفضي شو في عنته هذا كان عاد هذا لكن وحلا جري الزمن جناحسي هاي الدولة دي ضد دمس شقالة دمس سمينيان ضد كلا قدي في قلنا إنه وحبورتان جناحسي سميستان وحصو ساران marka objective wuxuu ahaa see loo sameeyaa ganacsi cilmiyeysan waxaan ka bilaabay meel aan waag hore laga bilaabi jirin oo see loo helaa fikrad ganacsi dabcan daraasad baan ku sameeyay ganacsatada iyo ganacsiga Soomaalida wadamada ganacsigeenu fiican yahay oo Kenya oo kale iyo Imaaraadka kale ay soo mariyay wadamada ganacsigoodu liito oo galbeedku ugu daran yahayna lugtan soo mariyay maxaa keenay ganacsigeenu inuu hana qaadi waayo waliba galbeedka ilaa hadda maxaa loo leeyahay ganacsi Soomaaliyeed oo qiimo leh in laga yigleeli waayo galbeedka hal iyo laba iyo saddex marka xawaaladaha laga reebo hal iyo laba laga yaabaa in aragtid iyaguna inta badan aan muuqan waxa la yiraahdaa Soomaaliya ganacsiga ku fiican tahay misana galbeedka kama muuqato arintaas oo hadda Ingiriiska waxaan u maleynayaa ganacsiga Soomaalida wayna ka warhaynaa iyo Yurub oo meel kasta tagtid iyo Mareykanka iyo ganacsigeenu wali madax waa la kicilaya marka laga soo reebo xawaaladaha iyagana marketkooda waa ka duwan yahay ganacsiga xoogaha waa dhamaaday farqi baa u dhaxeeya Afrika ganacsigeenu waa fiican yahay Afrika iyo galbeedka waxay kala duwan yihiin demand iyo supply-ga galbeedka supply-ga iyo demand-ki waxa badan supply-ga si marka ganacsigaaga loo notice gareeyo waa inaad activity ka duwan activity-ga qofka Soomaaliya jooga iyo Afrika aad samaysid laakiin Afrika supply-ga iyo demand-ki waxa badan demand-ki waad keenaysa wax kasta aad geysid lagu dhaho container hadaa geysid maalin baa ku dhamaynaysa wali demand-ka sareeyo laakiin halkan supply-ga iyo demand-ki waxa badan supply-gi baa qofku choice buu leeyahay boqol wax uu kala dooran karaa marka laga soo bilaabo qofku marka uu ku fikiro ganacsi xirfadda uu iska dhisayo qaabka uu xulanayo ganacsiga qaabka uu helayo fikradda ganacsiga qaabka uu tadawurinayo qaabka uu bedelayo ganacsi shaqeynaya qaabka uu sameeyo suuqgeyntii maaliyadda xageey uu ka helaya sidee uu xisaabaadka u sameeynaya dhowr chapter cusub aan ku soo kordhiyay hadda buugan dambe oo dabcan markii hore aan wax yar arkay laakiin aan ka xishooday anshaxa ganacsiga business ethics oo dhawaantii qofku markuu Soomaaliya tago وأركي أشح جناح سجين وسيء هذا يوم مال ما نتقدم يسهوس راشين دعيب على كيني دعوة دعيب على كيني راشين كواليتي كسول اللي تالا قضية وح كواليتي اللي تالا كينية ميلا قار كنا تكو أركيسيد إن خيام دي وحستوى مرينتي فساد وكسو بدنية أنشحوا حمدنا جناح سجى فائدة ما كنته دبي وكنته جناح سجو حلاش وكبرارا إن زكدا يوحيا صدقة لقى بحي كبرارا وحكوبا هو سقود عاخي همذا وحوس ugu dhaco ku baraaraad istawa marinta ribada waxa soo dhibay wiin ganacsiga marka qofku seebo ganacsiga soo wadii kara waxaad ugu tagi doontaan islaameynta ganacsiga islamization of business waxa badan baa hadda gaaloobay aqoonti waa la gaalowdi oo gaaladu markii la wareegeen aqoon gaalo biology khaldan iyo wax khaldan baa leena ku fiiso maaha dunida islaamka hadda waxa laga hadlaa islamization of curriculum in waxbarashadii manhajkii waxbarashada la islaam gareeyo ganacsiguna wuxuu u baahan yahay dib loo islaameeyo islamization of business laga bilaabo fikradda qofku soo helayo qofku dadka soo la macaamilayo wuxuu ka ganacsanayo dadka wax la leh waynu ka warhaynaa guri Soomaaliyeed oo aysan oohin oo leen oo aan dhahayn ciribta la igu dhuftay iyo waxba la isku hoos mariyay iyo niman baa lacag u dhiibto dib ugu soo laaban iyo oo ku yartahay marka dhowr chapter baan ku soo koriyay buugga bangiyada islaamku wuxuu xal u raadinayaa dhibta ugu badan oo dadka ganacsatada marka weydiisay dadka Soomaalida wuxuu leeyahay qof walba meel aan maalgashi ka helo ma helayo laakiin diinteenu waa diin dhameystiran waa diin dadka rabta inay nolol fiican ku noolaadaan maaha diin dadka ciriir iyo qol mugdiya gelinaysa maaha waa buug marka qofka
si critical anoo waxaan ku fiiriyay indho critical markaan qorayay buugga bangiyada islaamka indho critical inaan qodqodo weaknesskooda raadiyo meelahay ku leextaan iyo meelahay ku xuyeen aan ogaado marka buug qofkii si critical u baraya bunuugta islaamku say u shaqeeyaan aaladaha isticmaalaan qofku marka uu ogaanaya aaladda ku habboon baahidiisa guri baa gadanaysa 5-6 option baa jira guri loo gadan karo qofka duruuftaada adiga yaqaana already waa naaro gareysay sida u xalin lahayd duruuftaada inaad guri gadatid marka barito bangi u tagtid waa taqaanaa midda kala hadli lahayd waa taqaanaa waxay ku xuntahay waxay ku fiican tahay mid walba hadaa u baahan tahay maalgashi fikrad baa haysa waxa u baahan tahay maalgashi bangi baa u baahan tahay ama khasab ma inaad bangi u tagtid dad muslimiin ah soo imaan karo lacag rays gareyn kara caqdiga waa qayb kamida buugga waana meelaha ganacsiga Soomaaliyeed aad ugu liitaan buugga hore furaha ganacsiga markaan qorayay su'aalihii aan dadka ka ururinayay waxa kamid ahayd caqdiga shirkadka Soomaaliyeed intooda badan caqdi ma leh waa laba nin oo intay meel isu tageen ma sha Allah waa dad ahal fiican oo wala culimaa aynu wax bilowno haday leeyihiin in caqdiga dadka u bandhigay ama dad culimo ah ama dad shuruucda yaqaan lawyers waa yiri ma jiraanba bal ilaahay una xariistay Sheekh Abdulqaadir Nuur Faarax ayaa waxaan dhageystay muxaadaro uu ku dubay Boosaaso oo leeyahay dhibta ugu badan oo haysata waa dadka ganacsatada marka isku dhacay sida loo kala saari lahaa oo caqdi sax marka hore maysan qoran wadada la Suleymaaniya hal kala saara la dhahaya waxay noqonaysaa in base iyo meel raaca male marka buugga bangiyada islaamku cuquudda ay bangiyadu ay la galaan dadka ay u qaabaysan yihiin iyo goorma caqdi noqon kara fasaad iyo hadaa guri gadanaysi hadaa maalgashi u baahan tahay iyo hadaa qaymis u baahan tahay mid walba soo shaqeeyo markuu qofku fahmo yani wuxuu qofku markuu yaqaan way fududahay inuu la macaamilo way fududahay meesha ka gal lahayd inay heshid muujeeda hadii laakiin aad aqoon u lahayn dib bay kugu tahay wixii oo dhan meelaha ka gashay helimaysid buugga saddexaad hogaamintu dad badan baa markay hogaaminta arkaan siyaasad iyo madaxweyne oo markay maskaxdooda ku soo dhacay hogaamintu waa xirfad qofku noloshiisa dhan uu adeegsan karo waxa ugu yar oo ah adiga naftaada saa u noolaan lahayd si vision hiraal u yeelan lahayd 20 sano 30 sano 40 sano ka bacdi meesha aad lahayd saa u samaysan lahayd qorshaha ku gaar lahayd meesha ha noqoto qoyskaagi waxa ugu yar oo ilmihii ah sida ugu sameyn lahayd hiraal vision si ilmaha loogu sameeyo hiraal marka wayna ogaatid hiraal waa maxay visionku si loo sameeyo vision maxaa visionada qaarna ka dhiga kuwa fiican qaarna kuwa xun ilaahay ma xumeeyo hiraalkeena iyo meesha higsanayno laakiin mararka qaar kood dadku iyagaan fahansanayn مواضيعdaas ayaa laga yaabaa inay tarbiyada khaldaan ilmihii mashquuliyaan jahwareeriyaan yani waxa laga yaabaa asbaabo badan oo waalidku keenay oo uusan ku baraarugsanayn inay qayb ka noqoto ilmuhu inay ama xumaadaan ama nolosha ka dhacaan marka hogaamintu waa xirfad waa book objectivekiisu yahay in qofku fahmo mowduuca hogaaminta isagu marka ama ha ku dabaqo dhibta inay ka haysto hogaamintii dawladeed oo yani aynaan hadda isaga sheekaynin ama midda jaaliyadaheena dabadda ah وإن هذا سجى شاكينين أما مساجد ذين يا مدارس ذين يا مراكز ذين أنا سجى شاكينين أما قناعسية ذين أو لفت جودة أنا سجى شاكينين شركات كين أما هالنقطة قفكم نفتي يقول جيس إنه خد بخا بوجا أفراد أو كلا أو الزكدة أو سجنا حكاها الله يسير له حساب الزكدة وحي أمواشي الزكدة كواجبتي مركب العلماء ذين حولها يبيرها يأدوها للشرين لكن هذا حنادو على يستين نك قري وانين دكتورة جامعة سمت كحجان كاه زي لو كالكوليت قرية زكاة بتروليوم كي هدينا به الله إن شاء الله وانا هلي دوناي زكاة زي لو كالكوليت قرين دونا وحيابها خيرات كارول كلا قلا صباحه معادين تا زي لو كالكوليت قرية بوك الله يا waxay isaguna jooga akhuna xildhibaan oo ah dhabaantii khayr Allah siiyay inda daalay janibka taariikhda iyo siyaasadda iyo maamuladii soo maray aad ugu dadaalay haddana kutub kale oo kuwii ka sii badan bahaya haye absidoon waxa kaliya ay tahay anoo ku hadlay magaca naadigaas oo Saciid sheegay inaan Saciid ugu hambaliyeeyo aan ilaahay ajir ha ka siiyo maxay yeelay buugta uu qoro waa buug cilmiyeed bulshada aad uga faa'iideysan doonto insha Allah waa dabacadii labaad saddexda buug bas dabacadii koowaad waa adagtaasi lagu helo oo dhamaaday marka khayr Allah ka siiyo inuu juhdi mana kii hore la dabacay aqoon badan oo dheeraad ah ayaa hadda la geliyay waan huba hadii Saciid aqoontaas uu halkaas geliyay afkal uu ku qori lahaa lacag badan uu ka sameyn lahaa laakiin wuxuu ka tirsan yahay dadka u hiiliya afka Soomaaliga sidaas darteed wax badan aan sheekaysan waa saaxiibkay bal jiilka dambe aan wax ugu tagno asiga hal ku dhagiisa uu qabsado waa midka
marka waxaan leeyahay waad mahadsan tahay khayr allah kaa siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii hadal la sheegayo hadalka wuxuu qurux badan yahay marka aad ka sheekeynaysid waxaa yidhi allah subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam. inta kale waa aadanuhu waxay ku heshiiyaan. waxaan runtii aad iyo aad ula dhacsanahay ogaagta soomaalida ah ee la qoray dhammaantood muddadii burburkii dowladnimo ee soomaaliya uu soconayay. siciid waxaan rabaa hadda waxaad arkaysaan gacantayda inay ku jirto yacni waxaan u dayn waayey inaan wax sii gagashado si aan u xusuusto meelihii aan qoralladaas iyaga ka helay. yacni qof kastaa wuxuu doortaa marka uu wax qorayo meeluu isleeyahay waa kugu habboon tahay. wax kasta ma qorno, waxa aan qornaa waxay yihiin ay isugu jiraan qaybaha wax laga qoro, sugaan ha ahaadeen, cilmi ha ahaadeen, taariikh ha ahaadeen. nin kastaana ma wada qoro intooda, nin kastaa wuxuu ka galaa dhinaca qoraalka qayb ka mid ah qoraalada la samaynayo. siciid waxaan ugu hambalyaynayaa bugaagta daabacaddii labaad ee halkaas taalla dadaalka dheeriga ah. yacni marka anigu waa haysta hadda koobiyadan yacni kuwii ka horreeyey, laakiin meelaha hadda faraha aan geliyey waxyaabo aan la dhacsanahay oo fara badan baan ku arkay. yacni waxaad garan kartaa aadanuhu tilmaamaha wanaagsan uu wax ku qaataa. ruuxaan wanaagsanayn haddii maalmaha salaada jimcaha la tukanayo intiina badan ee culummada iyo soomaalida iyo islaamku dhagahoodu waxay maqlaan allaahuma laa tusallid calayna bidunuubina man laa yaqaafuka walaa yarxamuna. soomaalida ilaahay wuxuu ku salliday hadda kuwa aan xishoonin, kuwa aan hogaamintoodu aysan wanaagsanayn, kuwa maslaxadooda ka hormariya maslaxadda islaamka oo dhan intay meel iska dhigeen iyo tii dalkooda iyo dadkooda tooda keliya ay u muuqato. wax kasta aniga saasna waxba kuma hagaagayaan. dadku haddayan isu sabrin waxaa halkan ku jira tilmaamo aad iyo aad u qurux badan. ma wada sheegi karo yacni hadda aniga waqtiguna waan hayaa. waxaan idin leeyahay sida siciid idinka dalbaday cali shire doctor siciid in bugaagta la akhriyo, fariimaha wanaagsan oo ay xambaarsan yihiinna dadka la gaarsiiyo. halganka aan ku jirna ma aha inaan lacag samayno, halganka aan ku jirna ma aha yacni waxaad ii sheegaysaan marka kama dambaysta aan hadalka ka tegayo su-aal muhiima oo qalbigayga ku jirta, taasoo ah baraha ama macalinka. yacni intiina yacni inuusan ku jirin baan rajaynayaa ninaan iskuul tegin. yacni ma ii sheegi kartaan macalin taajir ah ama islaamka dhinaciisa ka ah oo yacni diinta islaamka dadka bara ama tacliinta inteeda kala bara? ma jiro. yacni dadka uu waxbaruu ku faanaa oo cilmigaas isaga ah uu gaarsiiyo. halganka aan ku jirnaa waa kaas. ujeeddadeennu ma aha inaan koox iyo xaafad iyo degmo ka tirsan dhulkii jamhuuriyadda soomaalida iyo guud ahaan islaamka dhexdiisa aan qolo taageerno, qolana aan ku riixno, qolana aan ku soo dhaweyno. halgankeennu wuxuu yahay inaan aragtideenna u gudbinno iyo sidii ay wax ku hagaagi lahaayeen. ruuxii waxaa halkan ku jirta to fail to honor. haddii aad ku guuldaraysato yacni inaad dadka ixtiraamto, dadku waxay ku guuldaraystaan markaa iyaguna in adiga ku ixtiraamaan. so kuwa doodoodu ay tahay aniga ma guulaysanayaan weligood. shaydaan baa shar lehe. waa tii xusuusi ayadihii qur-aanka uu alla subxaanahu wa tacaala ninkan ibliiska ah faqaala ana rabbukum alacla fircawn baa yidhi. midkii kale wuxuu yidhi namruud soo ma ahayn faqaala ana yuxyi wa yumiit, aniga waxna waa dilaa waxna waa nooleeya. soo ma ahayn midkii kale waa badnaayeen kuwa aniga dhaha guuldarraa u dambaynaysa. innaka oo isku duuban oo mid ah ayaan wax gaaraynaa. waxaan rajaynayaa siciidna abaal badan ilaahay ha ka siiyo. contributionkeeni waxay ila tahay guuldarooyin waana haysataa. macnihii haddii dadkaagu ay sidaas yihiin oo weli la dhibaatoonayo gooshii aan filaynin lama gaarin. dadka waa ka harnay. yacni heestan aad bay u qurxoonayd. masjid baana la joogaa, waa ka xishoonayaa. cabdi maxamed amiin 71 waxaan hayaa buuggii ugu horreeyay oo hilin hayaan waa lagu soo qoray. buug kale oo wasaaradii waxbarashada ay daabacday baa jira aad u cajaa'ib badan. waa ka xishoonayaa culamo hortoodna waa taagnahay. yacni
qofku inuu dib u raaco taariikhda aadanuhu waxay iska dhaaf caradan in waa laga gudbay waxaa tartan loogu jiraa dayax goormaan gaaraynaa marka aan anigu leeyahay koox kale oo jamhuuriyadda ka tirsan Soomaalida ah oo islaam ah oo shahaadanaysa oo aan xaq ku leh xaq waxaan u leeyahay oo kale ku leh marka aan anigu iska riixo ma guuleysanayaa waligay islaamka sharaf darra haysata halgankeenu ha noqdo inaan diinta islaamka iyo dadkooda iyo dalalkeenaba ixtiraam badan u muujino aad baan u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin walaalayaal walaalaha ka soo qayb galay bandhigan mar labaad iyo mar saddexaadba insha Allah taala meesheen baan ka sii wadan doonaa su'aalihii ka hor inteenan su'aalaha u galin maalmihii aan ku soo jirnay hawshan iyo bandhigan inaan soo diyaarino nin dhalinyaro ah oo magaaladan isku aragnay oo aan u dhiibaayay warqadaha baa wuxuu igu yiri ninkan aad warqadihiisa maalin walba aan ugu weerarinaysay ma waxba isku tihiin waxaan ku yiri maye waa ogtahay Soomaalida dadka wax qoraad ba u yaryihiin marka si aanu u dhiiri gelino baan ugu dadaalaynaa ninkan dhalinyarada walaalkeena Soomaalidu waxay ku maama hadda ka hor baa dameer baa wuxuu yiri waxa lagu yiri warniyahow marka dameerta u tagaysid laad bay kala daashay ma iska deesid dhibtaana u maris markaas wuxuu yiri waxaan ka baqay dhag dameer in la waayo marka anna waxaan ku yiri waxaan ka baqay wax qora in la waayo haddayna ninkan u dadaal marka aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaa walaalkan Saciid qofkii su'aal raba inuu weydiiyo waa u furan tahay oo mahadsantihiin Saciid wadaan su'aashan ku weydiiyo waxaad sheegtay in hogaamiye xumo ay jirto society-ga Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay haddii bulshadu lafteedu ay yihiin bulsho oo aan iyada lafteedu dareen lahayn oo haddii hogaamiye xataa uu yara liito aan kicinaynin hogaamiye kaligiis muxuu bedeli karaa taas waa mid labaad geesinimadii dadka Soomaalida lagu yaqiin ay wax diidaan oo qofku yiraahdo waxaan ma qaadanayo oo hadda ka dhawaajisay in laga baxo waxa la yiraahdo independency-ga oo dadka Soomaalidu ama madax ha noqdeen ama shacab ha noqdeen meel kasta ay joogaan ay dependent noqdeen dad inay ku xirnaadaan ama waddanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama waddanka Soomaaliya ha noqoto bulsho adag ayaynu ahaan jirno oo iyadu dalkeeda haysato oo adag oo haddii difaac noqoto qarannimadeeda difaacata had maanta qarannimo ma haysano bulshada aqoon ma haysato kii bulshada ugu sareeyay kii ugu horeysay adduunka bariyeen geesinimada aan lahaan jirnay oo ahayd inaan dadka yac iska dhaano wadamada dariska maanta saad sheegtay ama waan akhriyay inay waxyaalo far badan haday noqon leed in internet ka hormaraan ama inay daamam sameeysan sida Ethiopia doonaysa inay hadda xirto labada Juba iyo Shabeel oo doonayaan daamam inay ka sameystaan inay anada daam kala sameeyaan oo hadda dagaal ugu jirto Masar iyo Ethiopia inay isku haystaan iyo Suudaan intaba inagu intaa ma aragno waxaad moodaa waxaanu nahay just dad aan u jeedin wax dad kale arkayaan marka sidee baynu ku heli karnaa hogaamiye adag sidee baynu ku helnaa bulsho adag sidee baynu ku heli karnaa bulsho geesi ah sida bulshooyinka abayaalkeen runtii geesiyaal bay ahayn technology-ga iyo nolosha maanta aan haysanan ma haysanaysan aad baa mahadsantahay jazakallahu khayr hogaamiyaha ummadda xun buu ka soo dhex baxaa iyo haddii dadkooda xun yahay hogaamiyuhu muxuu qaban karaa waxaad arkaysaa sunanka ilaahay ummaddu markay fasahaadaba ambiyada laga soo dhex saaraa hogaamiyaha dhabtahay wuxuu soo baxaa marka ummadda xumaato hogaamiyaha dhabtahay marka wax kasta ay fiican yihiin cid kasta wax hogaamin kartaa hogaamiyaha dhabta ah xirfadii hogaamineed oo dhabta ahayd leh waxaa loo tagaa marka duruufta adkaato horumarka Yurub inteeda badan iyo maanta meesha ka jirto jaranjarada horumarka adduunka yani Yurub isku mid maaha waxaa loo tiriyaa dagaalka labaad adduunka markii ka soo baxday wadan walba cidii hogaamisay wadamada hadda ku yaala geesaha Yurub oo ugu faqrisan Greega iyo Spain iyo Portugal iyo ugu xadaarada dheer intooda badan dib u dhacooda wuxuu bilaabay dagaalka labaad adduunka markii laga soo baxay hadda sida Yurub ay uga soo joogtay jahwareerkii dhaqaale qaybahan waxaa loo tiriyaa wadan walba cidii hogaamiyaha ka ahay marka ducaalow hogaamiyaha dhabtahay wuxuu yimaadaa marka xaalad adag tahay ayuu yimaadaa hogaamintu wax lagu dhasho maaha wax la barto inaga ma la bartaa hogaaminta adduunka jaamacad kastoo ku taala Ingiriiska fiiri waxa ku taala meel lagu darso hogaaminta leadership center baa ku taala
innaga intee jaamacadaheena kamid ah umalaysa inay leadership center leeyihiin ilaa hadda ma jiraan 2011 iyo 2012 sarfey baan ka qaaday jaamacadaha Soomaaliya laba jaamacadood baa maada ahaan u dhigay iyagana markii aad fiiriso contentigoodu aysan wax qiimo lahayn yaa inaga barta hogaaminta haddii dadkeena aysan aqoon hogaamin yani hogaaminta marka laga hadlayna waxa la dhahaa waa mowduuca buwaagta uga badan adduunka laga daabaco ku qor Amazon tag oo leadership intii buug hayaan fiiri markii ugu dambeysay over 100,000 oo title oo Ingiriis ah ay hayeen Amazon waa mowduuca buwaagta ugu badan laga qoro adduunka sharikaadka waxa la qiyaasaa inay lacagta ugu badan adduunka ku baxdo sidii loo soo saari lahaa hogaamiyaan ayaan ku baxda sharikaadka yani in la soo saaro hogaamiye time bay qaadataa in hay'adaha iyo dawladuhu halkan axsaabtu waxay leeyihiin qaab ay u soo saaraan succession planning hogaamiyada mustaqbalka maanta baa ragu fadhiyaan ingiriiska waxa maqashaan baarlamaanka backbenchers Soomaa rag baa soo saara hogaamiyaha buug hogaamiye waxa ku arki doontaa hogaamiye habeen lagu ma noqdo imisay qaadataa ninka ciyaartooyga ah inuu noqdo bilad dahable ma u faarax imisa ku maleynaysaa inay ku qaadato inuu gaar heerkaas ma habeen bay ku soo dhacday inuu subaxdii orday markaas intuu subaxdii orday oo bilad dahabka lahayd qaatay waa maya hogaamintu waxay u baahan tahay waa barasho kaliya kuma xirna qofku marka hogaamintii barto waxa la yiraahdaa sida guriga dheer oo dabaqa ah ugu baahan shub asaas xoogan hogaamintuna waxay u baahan tahay asaas xoogan waa aqoonta iyo aragnimada qof aan aqoon iyo aragnimo lahayn hiraal ummadeed ma sameyn karo ummad ma hogaamin karo waxa ku xiga marka qofka aqoonta yeesho inuu helo mentor inuu helo qof haga la taliya gadaashiisa fariista dhinaciisa fariista wax u sheega wax u tilmaama si go'aan loo gaara si arrin loo qiimeeya si dad loola fariista si wax looga baaraandaga waa inuu helo cid wixii mentor waa inuu helo qofku waa inuu samaysto role model tusaale uu ku daydo inaga dad muslimiin aan nahay role modelkeena iyo tusaalaheena waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa khulafaa raashidiintii waa saxaabadii waa dadkii wanaagsanaa qofku waa inuu akhriyo dadkaas siiradooda waa inuu akhriyo ku tadabburo ku fikiro cadligoodii amaanadoodii qiyamkoodii waxaad buuga ugu tagi doontaa hogaamiye munaafiq hogaamiye ma noqdo ogow munaafiq calaamadaha munaafiq oo inuu dhaqanaa Soomaa gaaladii xataa way ogaatay munaafiq inuu hogaamiye noqon karo ninka gaalada ah oo ama corruption yar sameeya ama been lagu arko ama wax isdaba mariya ama ballan ka baxa ma soo laabto marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalka haddaynu rabno inaynu helo hogaamiye fiican hogaamiye adag anigu ma qabo hogaamiye fiican baynu rabnaa adayga waxa laga yaabaa inaynu wax dilo oo laga baqo u naqaano hogaamiyuhu ma in laga baqo hogaamintu cabsi gelin maaha hogaamintu waa xiriir sida xiriirka labada qof tayada noloshooda isqabta ay ugu xiran tahay xiriir ka dhaxeeya tayada hogaamiyuhuna waxay ku xiran tahay xiriir ku leeyahay mujtamac hogaamiyuhu ma in laga baqo waa in la xushmeeyo xushmadana waa inuu kasbado ma inuu khasab iyo hees iyo samdule loo ku helo ma waa inuu kasbado sidoo ku kasbanayana waa qaab dhaqankiisa waa dabeecadiisa waa attitude-kiisa waa policy-gu sameeyo waa wuxuu qabanayo waa wuxuu taagan yahay marka hogaamiye fiican haddaan rabno inaan nimaadno waxaan dadka ku challenge gareynayaa aynu akhrino barano darisno hogaaminta ma qabo anigu jirada Soomaalida in dawo loo waayo ma qabo anigu adduunka ma jirto yarhamukallah adduunka epidemic jiro kasta oo dhacda waa la baaraa Soomaa aakhirka waa la helaa jeermiska iyo dhibta waxaan keento Soomaa kadibna talaal iyo dawo loo helaa macquul ma kula tahay inay jirto jiro marka inaga dawo loo waayo qabyaalad inama hayso buuga hogaamiye nuxurkiisu waxa weeye dhibta Soomaaliya waa dhib hogaan xumina يعني كبحي منه إلا إنه موضوع هجامنته سي علميا أو برنا إلا إنه أجانه يعني هجامنتنا أجو إسلام كواكبة حد بلارن تايتن قال هذا وحديث رسولك صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو يضو هدي فهمته هجامنته قابك علمي هذا أبا بنيسه هرال هم سرق الصمينيسه أجو هم عالي إنه وياش علمه قابك ولا دقنته لقد كل هذا الشيء أنت ذا يسيسه يدا نسكرته hogaamintu waa qaab dhaqan qofku from bilowga yani dhuuxiisa lagu abuuro qaab dhaqankiisa lagu abuuro dadkii hore oo boqorada ah iyo ilmaha la rabo in loo diyaariyo madaxtinimo waxa loo sameyn jiray dad mentor oo haga oo ay la fariistaan qaab dhaqankii iyo dabeecadii hooyadu markay hogaaminta barato ama aabuhu uu mowduuca hogaaminta fahmo wuxuu ogaanayaa khasab inaysan jirin qayl inaysan jirin
wuxuu ogaanayaa waxa ilmaha ka rabo isagu inuu marka hore isaga inay marka hore ka muuqato hadduu rabo ilmuhu inay amni ammaano yeeshaan cadaalad haddii yeeshaan run yeeshaan balan oofin yeeshaan dadaal yeeshaan dadnimo yeeshaan karti yeeshaan isagaa marka hore waa inay ka muuqato isagu haddii kale been bay noqonaysaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun haddii kale been lobuu noqonaya inaan dhaho anigiina waqtigayga waxaan ku luminayaa fadhi ku dirir iyo bilaa micne ilmihiina aan dhaho wax akhriya loojig maha marka hogaamintu waa xirfad ka bilaamaysa hooyadii iyo aabbihii ilaa iyo la gaaro heerkii ugu sarraysay waxaana hubaa reer walbaaba ama ummad walbaaba waxay ka horumarsan tahay intay ka fahamsan tahay hogaaminta ummadda marka hogaamiye fiican yeelata hogaamiyaha fiican baa u samaynaya hiraal fiican iyo qorshayaal fiican ummadda laakiin yeelan weyda hogaamiye fiican way isku dhex yaacaysaa marka hogaamiye haddaan rabno inaan helo fiican insha allahna waana helaynaa ilahina waxaan ka rajaynaa inaynu helno waxaan leeyahay aynu mawduuca akhrino aynu barano aynu darisno aynu soo qaadana buugta nin la dhaho professor sulub waa sheekh cabdirasaaq yaqaan oo buug qoray hadda la dhaho 56 xeer ee hogaaminta 56 laws of leadership oo Soomaaliya ayaa iga qoslinaya wuxuu yiri marka arko waa nin weyn waa yeela marka arko xaajiyada ilmuhu si fiirinaya buugta hogaaminta dib ugu laabtaa way hogaamintu waa saameyn haddii rabtid inaad qofka saameyn ku yeelato noloshiisa waa inaad leadership ki fahantiid hogaamintu maaha amar maaha khajajub maaha khasab maaha awood iyo lacag inaad isticmaashid waa soo jiidasho waa isjeclaysiin waa xiriir waa wada hadal waa naxariis waa kalgacal marka anigu waxaan leeyahay waa ku dheeraaday su-aasha aynu baranno fahanno mawduuca hogaaminta markaynu fahanno mawduuca hogaaminta waxaan aaminsanahay wax badan baa inoo furfurmaya waxaynu noqonaynaa dad wada hadli kara waxaynu yeelanaynaa mastarada in wax ku cabirno hadda institutionistkana maxaa lagu cabiraa inay horumareen iyo inay dib u dhaceen qofka Soomaaliga lama cabiro waayo mar kasta qiil buu helayaa qabiil baa la ila dagaalamay buu dhahayaa simple intaas ay ku filan tahay waxba looma raacan karo madaxweynaha qabiil baa la dagaalamay kii shirkad loo dhiibay qabiil baa la dagaalamay kii institution iyo meel khayr iyo lumsaaj loo dhiibay qabiil baa la dagaalamay way out buu haystaa way fududaanaysaa in la helo mastarado qofkii lagu la dagaalamo lagu cabiro way fududaanaysaa isagiina oo isku cabiro dadka kale ay ku cabiraan laakiin hadda qof kasta iska good buu helay wuxuu leeyahay waa leeyla dirsan yahay wax leeyma ogola iyo waa leeyu kacsan yahay intaas ku filan ba meeshaan inaan sii joogo laba rabo baa ku filan ba marka mastaradaha wax ku cabirno iyo saynu u fahansanahay nolosha iyo dareenkeena iyo waxyaabaha aniga aan ka naxo waxa kamid ah qofka Soomaaliga uu cad u yaqaana ma qormee qaan gaara qofka Soomaaliga oo bislaada oo la dhihi karo aleelo qofkaan waa bislaaday waxa ma qofkaan maanta waa hanti ummadeed oo la isku haleyn karo qormee la dhihi karo marka waa ka baxay insha Allah ragi kala su'aalaha gudbinaya laba su'aal oo yaryar Saciidow warbixinta uu qoray journalka economy ee ku saabsan Soomaalida UK anigu waan akhriyay waan print gareysto meel baan dhigtay sidee marka waa su'aasha taas ku taabsan waxa way sidee baa dadka Soomaaliyeed arinta lagu tilmaamay ama ha joogo Leicester ama London ha joogo ama Manchester ha joogo uu dareensan yahay isla markaana dib ugu celiya community-giisii intuu iskugu yeero oo u sheego dhibka jiro warbixintaas soo baxday way public ahead waa la ogaa saad u sheegtay way ku jirtaa hadda ninkii economiga uu ka helaya waa dhibna haasto waxyaalaha simbalka ah inaan waxan laalaanka la dhaho iskaaga iimaan waa sahlan tahay aad bay u sahlan tahay inaan taariikh soo xirno soo aruurno gabar iyo wiilbo ilaa dhibkaan lagu tilmaamayo community ahaan oo ilmaheena inay yihiin meesha ugu hooseyso maxaan iskaaga iimaan lahayn waa su'aal koowaad mid kale waxa weeye buuga islaamiga ah waxa la soconaa PHC banka la dhaho inuu haastay inuu lahaa qismi la dhaho qismiga banka qaybta muslimiinta sida aad u sheegtay in dawladda Ingiriiska ay dhimayso shaqaalaha iyo waxyaalo badan la dhismayo ayaa banankana ay dhimayaan shaqaalahoodii iyo departmentka ka shaqeeyo way fariisteen markay fiiriyeen departmentka ayuu noqday departmentka inuu arkeen faa'iido wayna ka saareen shaqaalihii ka shaqeynayay kabigiisna waa la fasaxay sidee marka la isu waafajin karaa su'aasha ahayd qofka UK joogo oo rabo guri inuu gato uu waafajin karaa hadduusan helin macluumaad inteena marar badan waxaan dhahaa Soomaalidu waa ummad ku nool jasiirad cidla ah aan la falgelin ummadaha ku dhex nooshahay number 1 horta dad yar ba akhriyay number 2 dadka akhriyay intooda badan ma rumaysan qofka Soomaaliga ah wuxuu soo arkaa inuu yahay taajir ummadda ugu horumarsan yahay ilmahooda ugu sareeyaan cirka ay marayaan ay isku aaminsan yahay waana wax khaldan aniga laftayda markii aan akhriyay reportkaas inuu nahay ummadaha ugu faqrisan UK markii hore waa ku qanci waayay ilaa aan dheetadii dib ugu laabtay
oo aan methodological error baan ka raadinaya meel aan researchka marka la sameynayo waxaa jira reliability iyo waxyaaba la fiiriyaa jira oo in lagu kalsoonaan karo datadooda iyo qaabka u soo ururiyeen weakness baan u raadinaya marka hore waa ku qanci waayay ujeedaa marka waxaan is leeyahay hadda jazaahumullahu khayr culimadiina waa in la joogtaa waxaan is leeyahay waxaynu u baahannahay dadaal ummadeed iskaashi waa in dadkan la toosiyo waa inay dareemaan dhulkay ku nool yihiin nolosha taalla hindida Leicester jazaahumullahu khayr oo muslimiinta wax badan baan ka baranay haddaanu ku camal falayno waxay yaqaanaan sida loo dhiso community yaqaanaan inagu falilah alxamdu aqoon-yahankeeni iyo jeneraaladeeni iyo dakaatiradeeni waa wadanay kamana faa'iidaysan iyagu way ka faa'iidaysteen dadkooda ay ka faa'iidaysteen arrintan la xiriirta marka ama see guri loo gataa ama duruufaheenan horta ilaa aynu aqoonsano dadka bayloodshada waxaa jira kowdad la baro waxaa ugu horeeya diyaaradda marka shil dhaco acceptance wax la dhaho horta waa inuu ninka bayloodka ah aqbalo in shil jiro wax khaldan yahay ilaa uu aqbalo in wax ka khaldan yihiin xal ma raadinayo acceptance ninka bayloodka markii uu dareemo waxa ugu horeeya waa acceptance waxaa ku xiga alert inuu meesha bayska ugu dhow marka uu fariin u diro oo waxba iga khaldan markaas buu u laabtaa inuu wax xallin karo xalliyo Soomaalidu inagu ma inaan soo gaarin wali heerka acceptance anigu waxaan leeyahay ana jeclaan lahaa hadda culimadu ay nolol joogtaa in la abaabulo mu'tamaro dadka lagu wacyigelinayo in daraasado cilmiyeysan lagu sameeyo jazaahumullahu khayr culimadu iyo masaajidadu door weyn bay ka soo baxeen ilaa haddana kulay dadku iyagu bay wax ka fadhiyaan oo dad kale hadda maanta la kuunyayo ama u naxaya dadkan jiritaankooda iyo aakhiradooda iyo adduunkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda anigu inay jiraan ma qabo dadkii maanta waa laba extreme ama waa dadka masaajidada ku xiran ama waa dadkaas chatka iyo de meelahaas bila macnaha waqtigooda ku lumiyay marka challenge-gaas culimadii hadda la joogtaa waxaan jeclaan lahaa markay soo baxaan arrimahan oo kale inay noqoto arrimo khudbooyinka jimcaha looga hadlayo dowrooyin laga abaabulayo mid kasta oo waxyaabaha ay researchkaasi identify gareysay xal package loo raadinayo see ilmaheena sare ugu qaadna waxbarashadooda see shaqo la'aanta Soomaalida u yareynaa sidee dadkan u samaysan karaan ganacsiyo xal weynu keeni karnaa ama arrintan isbedeladan ku dhacaya bunuugta iyo waxa la midka bunuugta islaamku way soo badanayaan dabcan tartan baa jira competition baa jira bunuugta islaamka cilada haysta waxa weeyaan waa bunuug ku salaysan faith qofka la dhiil gareynaya waa qof aaminsan wadamada qaarkood oo South East Asia waxa laga yaabaa dadka la macaamilay ee aan muslimiinta ahayn inay ka badan yihiin kuwa muslimiinta ah laakiin halkan waxay ku talagaleen dadka muslimiinta ay la macaamilaan hadda dadka meeshan jooga billaah calaykum imsa qof baa bank islaami hadda ka uga furan yahay asbaabta keenaysa marka bankiga islaamiga inuu meel gaari waayo waxa weeye wadanka regulation baa ka jira bank islaami hada ama yuusan ahaan waxaaga waa helaysaa ama Barclays ku yaalo ama Islamic Bank of Britain ku yaalo waxaaga waa helaysaa inagu hadii aanu awood wax ka qayb qaadano dhismihii institution islaami inuu dhismo isaguna waa dhismi lahaa adeegu qabanayna waa badan lahayd laakiin mid asbaabaha keenaya bangiyada inay xirmaan ama ay shaqeyn waayaan yani wadamada galbeed kaliya Sacuudiga wadamada qaarkood bangiyo marka ribawi ahaa ayaa hadda waxay u wareegayaan inay noqdaan islaamic marka waxaan isleeyahay waxaynu u baahannahay culimadeena jazaahumullahu khayr in ay arrintaas sii qaadaan xanuunka ummadeena haya maaha qabaliyad oo waxbarashadeena ku liidano waa shaqo la'aanta waa meelaha khaldanaynu degannahay oo social housing ah oo crime iyo drugs ku badan yahay waa in xal iyo dawo loo raadiyo arrimahaas oo in dadka caqliga la isu keeno masaa'isha la faguro package loo diyaariyo ummadan dadkan meel uma socdaan 90 baan rabay Norway inaan jaamacad bilaabo waxaan aad u xiiseynayay scientific engineering baan aad u xiiseynayay markaasaan anigu waagii Soomaaliya markaan dugsiga ka baxay jaamacad Magala askari baan ahaa time dheer baa u dhaxaysay markaan dugsiga ka baxay iyo markaan warka xilliga aan rabay inaan jaamacad galo marka engineering baan rabay nin oo sanadkaas hal sano dhigtay ayaan buugti ka soo qaatay buug physics aan soo qaaday marka iyo maths iyo chemistry iyo xisaabtii iyo chemistry waxaan ka fahmay physics waxaan ka fahmi waayay hal option baa ay fureed marka oo ahayd inaan hal sano access qaato maadoo da'daana baa hal sano kale ka lubi kartaa baarisay 2013 wali Yurub baan joognaa 20 sano ka bacd aniguna sanadkan waxaas lahaa sanad gudihiisa ama 2 sano gudihiisa wadanka ku hagaagaya lagu laabanaya waxaa muuqata in meeshan la joogayo sidaynu ugu noolaan lahayn aynu guryo u yeelan lahayn
يعني qofku markuu guri yeesho isaga xor ah meeshuu degi lahaa waa waxyaabaha dadka muslimiinta Asiaanka Leicester iyo aan ku aragnay inay marka hore ku dadaalaan inay sameystaan community daris wanaagsan inay sameystaan iskoolo inay sameystaan masaajida inay sameystaan meel ilmahooda ku ciyaar inay sameystaan ilmahaaga marka tarbiyadooda iyo nolosha ilmahaaga waa la socon kartaa laakiin gurigu hadduu wanaagsan yahay illinga markuu ka soo baxana wixii ka dambeey aadan warkahayn ilaa uu soo galo waa masiibo marka insha Allah haday jiraan wax su'aalo ah waxaan isku daynaa inaynu 20 daqiiqo half an hour aynu ku soo afjarno haya Hiirad buuga koowaad waxa la dhahaa furaha ganacsiga kan ku xigana waxa la dhahaa bangiyada islaamka kan ku saddexaadna waxa la dhahaa hogaamiye kan afraadna zakada afartaas haya Hiirad su'aashaydu waxay ku aadan tahay midna waa horumarinta oo waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo wax aqriya laakiin haddana aan indha lahayn oo walaalkeen lungo kale uu kamid yahay marka horta ma lagu fikirayaayo iyadoo laftigeedu ma la isleeyahay bal culumtaas in maaragtay la digital gareeyo si ay walaalaheen kale ay uga faa'iideystaan taas waa taas ta kale dhinaca bangiyada islaamka maalmaha waxyaabo far badan waxa soo baxaya Mareykanka waxa uu badatay la yiraahdo halal mortgage oo runtii dadku isagu in badan uu san faham ka haysan bal waxaan jeclaa horta halkaas inaad noo iftiimisid tan kalena buugaagta hadii risalaro oo kale aan ka noqon karno oo intaan qayb ka qaadano aan dib u sii gadi karno ama discount aan ka helno ama aan ummadda inay ka faa'iideysataba aan ku fikirnay ayadana ma la sameyn karaa insha Allah saddexdaas aan maaragtay su'aasheedu ku marka dhibaato badan baa Soomaalida guryaha ka haysata ayaan dhaweyto dawladdu waxay sheegtay in dadka ay discount badan u sameynayso dadka deymaha ka qaadanaya bangiyada oo 95% ay ka dhimayso 5% deposit dadka laga qaadayo macnaha ay sameynayso wax badan ma ogin dadka financialka bartaa kulay aad u yaqaana oo bangiyada islaamka iyo bangiyada wadamada ay u shaqeeyaan in noo kala sharaxdo waa rabnaa waxay kala keeneen wax la yiraahdo share to buy markaad meelaha akhriso waxay leeyihiin guriga half gado half kalena kirayso kaana inuu xalaasha soo galay inuu xaraamta soo galay asna ma naqaan culimada qaar rag Pakistan iyo markaad weydiiso waxay ku leeyihiin ribada yaan la cunina la yiri yaan la degin lama dhin yaan laga ganacsan oo laga tijaaraynin ayaa baasha la yiri ee guri aad baahay u qabto ee aad degaysid bidaruuri soo galaysa oo baabuurta insurance-ga akhyaarta wada gashato kale wax badan kama duwana ragaa yiri marka bal sheekh waxyaalahaas hadaan u baahanahay guri hadaan deganahay 1500 oo pound ku qasbanahay oo hadaan shaqeeyo 2000 guri ku shaqeeyo bishii 1500 laga rabo guriga in laga qaato hadaan qaato guri aan 500 oo gini bixinayo bishii oo aan ka tijaaraynayn oo wixii ribadii cunayn oo bal qaab si loo xalaalay karo la loo noqon karo sheekh bal kitaabada laga dhex raadiyo insha Allah Hiirad dadka disability-ga leh dhabaantii waa waajib ummadda kale dadka inta ka saaran tahay ayaga naga saaran waa khasab in mawaadiicdan la gaarsiiyo laakiin de waa in arrin u baahan in hadda loo fikiro sanadkii hore baan jaacad ku taala Soomaaliya cabaar macalinka ah class maas ka soo galay maanta dhan baa hadlayay hadda markii break-ii la qaatay ayaa nin gacanta la hayo la keenay markaas uu xir macallin anigu hadde waan dhageysanay waxa sawirada ku qorisay maanta dhan lama socon waan naxay waxay ahayd markii hore la ii sheego si aan wuxuu ugu tala galo macallimiintii baan u tagay waxaan risay loo xaliyay ardaygan dhibtiisa jaamacaddu male yani waa arrin ku cusub waaga hore dadka naga disability-ga leh waxaan baran jirin waxay noqotay marka macallin walba isagu inuu xal raadsado marka dadka disability-ga leh waa waajib ina saaran in la gaarsiiyo aqoontan فلله الحمد ولا qaarkood sida aqoonay kalena iyaga aqoon leh ay tahay mararka qaarkood aqoontooda inay dadka gaarsiiyaan marka arrin u baahan iskaashi anigu hadda insha Allah waxaan soo wadaa iyadoo dhageysi ana sameeyo audio iyada ah oo MP3 oo qof gaarigiisa gashan karo iyadoo videoyaan oo soo wadnaa marka laga yaabo inay qayb kamid ah daboosho farta brilaha waa hadda way fududahay in buugta loo bedelo aad bay u fududahay wala meelaha aan joogno laakiin waa arrin u baahan in la sii baaro laakiin in principle ayanu sanadkii dhaweyd baan balla kulmayba xanuunka oo aan xal u laa oo ardaydan kala fiigay bixisay mid lamid u bixiyay
at least xuquuqdii helayaan mid la mid ah haddii aan wax loo badine la arday kale note buu qaatay buuggii buu akhrisanaya isaga buug farti ku qoran ma helayo hadalkiisu waa intaa afka uga sheegtay iyo arday kaloo saaxiibadiisa mararka qaarkood noodkii ku dul akhriya intaa kaliya waay marka in waa arrin inoo ku cusub oo u baahan la iska kaashado ilaahay rasuulku wuxuu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam in xalaashuna caddahay alxalaalu bayin walxaraamu bayin mid ka mid a asbaabaha keenta in lagu dhaco arrimaha xaaraamta ah ama mutashaabihaadkana waa jahli iyo mararka qaarkoodna indha adeeg iyo canaad baa keenta iyo qofku isagoo iskala xaq weyn xaqa laakiin ilaa aqoon la yeesho lagama baxo mugdi ilaa zamankaanaynu joognana u malayn mayo dadka in loogu cudurdaarayo jahli u malayn maayo in loogu cudurdaarayo jahli marka qofkii raba jawaab fudud wuu heli karaa laakiin jawaab fudud baahidaada ma dabooleyso buugga akhri ayaan ku leeyahay xalaal mortgage waa kelmad waxba kama duwana cabitaanka lagu soo qoro xalaal biir oo kale magacu itself waa khaldan yahay in la qaato laakiin misana waa in repackaging lagu sameeyo la fiiriyo maxaa meesha ku jira maxaa waxyaabihii xaaraanta waxyaabihii khaladka ahaa maxaa ku jira meesha waa in la fiiriyo marka productiga la fiiriyo ayaa la ogaan karaa inay tahay xalaal iyo inay tahay xaaraan magacyada ay isticmaalaan bunuugta ayaa hay-aduhuna magac ahaan bay isaga mid tahaye gudahooda marka la tago isku mid maaha mid kastana ilaa la darso wax weyn lagama oran karo hadda akhuuna wuxuu sheegay share to buy-gan iyo waxyaabahan hadda guryahan socialka ah dadka loogu talagalay mid walba ilaa la darso package waxa ku qoran way adagta in laga jawaabo laakiin buugu insha Allah wuxuu ku siinayaa framework wuxuu ku siinayaa lenses aad ku aragtid ku akhridid adigu aad ku gaari kartid conclusion basic ah hadhowt way fududaanaysaa xanuunkaaga inaad su'aalo bedeshid markaa buug akhridid aniga objectivekeygu wuxuu ahaa in qofku awood u yeesho markuu akhriyo ileen waa aragtay ilmaha caruurta ahay markuu isbitaalka tago jiradiisa ma sheegan karo adigu qofka weyn laakiin filillahi alxamdu wuu sheegan karaa jiradiisa soo ma qofku maadada hadduusan aqoon u lahayn jiradiisa ma sheegan karo objectivekan ka lahaa waxay ahayd qofku inuu sheegan karo jiradiisa inuu akhriyo intee habbaa guri loo gadan karaa midee ku habboon duruufteeda wuxuu soo qaatay wuxuu arkay package ama bangi gadayo ama hay'ad ku deeqayso inuu intuu dib ugu laabto oo u fiirin karo waxyaabihii waxaa arkaysaa checklist baa jira waxaan ka fiiri ujeedaa hadhowta marka su-aashaadi waa naarogaraysmisa oo hadda su-aashu meesha tahay su-aal ballaaran hadhowta way naarogaraysmisa waxay noqonaysaa inaad wax yaro specific aad leedahay intaan waa hobsaday marka midaan iyo midaan baan u baahnay inaan sii baaro marka ikhwaani dadka anigu waxaan ku dhiirigelinayaa zaman aqooneed baan ku jirnaa wax akhriya waxaa maanta hadalku sheekhu akhuuna ku bilaabay ummatu iqra laa taqra aynu wax akhrino aynu wax fahanno bangi kasta maanta islaamiya markaa gasho website-ka resource ku jira qofkii akhriya ka badan muujeedaa bangi kasta waxaa ku jirta board of directors culimaa ku jira shariica board bay leeyihiin intooda badanaa su-aalo weydiin kartid shariica boardku wax kasta oo ay xalaaleeyaan waxaa ku jira bangiga adilada isticmaaleen oo maaha oo kaliya inay dheheen waa xalaal laakiin adiladoodii baad fiirin kartaa adiladoodii baa haddaa ku qanci weydid marka aad sii raadin kartaa inaad bal aad fiirisid maxaa ka rur saxa maxaa ka khaldan ma ujeedaa marka hadhowta way naaro garaysmaysaa su-aashaadii marka waxaan leeyahay arrimaha oo la xidhiidha guryo gadashada iyo maalgashiga iyo yani aynu akhrino aynu barano ribadu waxay ka mid tahay dunuubta ugu waaweyn wax lagu degdego maaha hadda anugu malihi guryaha la gato malihi kor iyo hoosba guryaha la gato malihi laakiin waxaan leeyahay diinteennu ilaahay waa inoo sheegay wax markii la xaaraantinimeeyo badiil baa ilaahay inoo sameeyey axala allahu albayca waxarama ariba markii zinadii la xaaraantinimeeyey guur baa lainoo baneeyey diinteennu waa diin maaha diin qofka ciriiri gelinaysa laakiin mararka qaarkood jahligeena iyo aqoon daradeena ciriiri ayna gelisaa ma ujeedaa mararka qaarkood culimadeennu qayb bay ka noqotay inay sii wareeriso waxa laga yaabaa masaa'il u baahan qof specialista inuu ka jawaabo in anigu aan ku dhiirado anigu marka buugga su-aalo badan kagama jawaabin laakiin waxaan soo bandhigay framework uu qofku wax ku cabiri karo lenses muraado uu intuu gashado wax ku arki karo mastarado uu wax ku fahmo way fududahay marka hadhowto adigu marka wixii fahantid way fududahay marka inaad hadhowto sii wadid aad bay u fududahay marka waxaan dadka ku dhiirigelin lahaa waxaan dadka aad ugu dhiirigelin lahaa inay wax akhriyaan su-aal dadka oo ayaadii weydiiyaan buuggan furaha ganacsiga
marmarba ayaan seminaaro waxaan ku bixiya ama online aan ku bixiyo ama waddan gudihiisa aan tago yani hadda masalada tahriibka Soomaaliya yarxamuka Allah waxaa laga yaabaa dadka dhalinyarada jaamacadaha ka baxay way dadka maalin walba badaha ku dhimanaya ama saxarahaas ku baaba'ay ama doonyaha ayagoo soo saara meelaha ku dhimanaya dad dhalinyarada jaamacadaha ka baxay waxaan u maleynayaa inaad in badan daawateen Libiya ama Yemen iyadoo laga sheekeynayo gabdho dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo adoon loo haysto qofka waxa ku baxaysa 20 kun 30 kun 40 kun meeshan soo gaar naftiisuna waa riski laakiin waxaan tijaabinay anagu oo Hargeysa waxaan ku bixiyay through online baan ku bixiyay seminaaro ah si loo sameeyaa ganacsi xamar iyo Puntland aniga physically tagay dad markii hore ku haminayay $20,000 inay ku galaan safarka geerida $500 ganacsi ay ku bilaabeen maanta in qaarkood ay dad shaqaalaysiiyeen dad inay shaqaalaysiiyeen xirfad la'aantu waa wax ugu weyn ee ka hortaaga nolosha ama ha noqoto xirfadaasi mid ganacsi ama ha noqoto mid bangiyada islaamka ama ha noqoto mid hogaaminta iyo maamulkiya marka dadka waxaan ku dhiirigelin lahaa aynu wax akhrino aynu wax barano waliba haddaynu rabno inaynu soo saarno jiil moral ahaan dhisan ninka la dhahayo ducaale marooda wuxuu ka waramayay dad qab weyn isku kalsoon haddaan rabno inaan soo saarno waa inaynu helno qaabkaynu ku soo saari lahayn waxaan isleeyahay qaabka ugu fudud oo lagu soo saari karo waa hogaamintaas waa in loola dhaqmo ilmaha qaab hogaamin hamisar loo yeelo la dhiso shakhsiyadiisa ilaa waalidku isagu isdhiso oo fahmana way adag tahay inuu gudbiyo marka insha Allah intaas kaga baxaya su'aalo kale hadii san jirin Maxamed Xaashi excellence laba su'aal aan rabnaa ku weydiiyo mid koowaad waxay tahay waxaa sheegtay Soomaaliya cilada haysata inay tahay maaragtay hogaamiye la'aan ama hogaamin xumo sida dhabtaan waxaa la soconaa qofka Soomaaliga ah markii uu hogaanka maaragtay inuu qabto ama hogaanka loo doortaba dadka asagoo wuxuu aaminsan yahay wax kale asoo shaqadiisa la aragba waa la akhriyaa oo waxa lagu dhajiyaa stam ama timbre ama qabiilkiisa ha noqdo ama wax kale ha noqdeen marka arintaas qaladkeeda ma dadka la mis hogaamiyayaale maxaas kula talan lahayd hogaamiyaasha maanta wadankeena maamulaya oo talahan soo jeedin leed maadaama aad research baan sameeyay wax badan ka akhrisay hogaaminta oo mid labaad ganacsiga sida aan la socono markii laga reebo hadda Soomaalida gudaha Soomaalida banaanka nool oo wadankan Ingiriiska ama ku nool Ameerika oo kale dad badan oo Soomaaliya waxa jiro ganacsadayaal haddana ganacsigooda kama muuqdo bulshada ay ku dhex nool yihiin ganacsigooda ama maaragtay successful rabay ma gaaro maxaa isleedahay waa ugu wacan yahay maaragtay inuu ganacsigooda sidii la rabay uu gaari waayo maxaa kula talan leedahay ayagana asbaabaha keena ganacsigeenu inuu muuqan waayo wax weeye marka hore boosan ku saleysnayn cilmi waxa la fiiriyaa marka hore yani haddii la rabo ganacsigu inuu meel gaaro dhowr wax baa muhiim ah qofka xirfadiisa ganacsi waa muhiim nooca ganacsiga uu xushayna waa muhiim meesha ganacsigaasi ku yaalana waa muhiim inaga waxa moodaa qofku marka hore inuu naftiisa qiimeeyo aqoon intee leeg baa leedahay ganacsiga oo xirfadaha ka dhiman barto dib bayna ku haysaa oo qofku isaga dhiiranaya wax kasta isagoo aqaan sida macaamiisha customerkiisa loola dhaqmo productiga sida pricing loogu sameeyo yani waxyaaba basic qofka ka dhiman tahay buu iska dhiiranaya mararka qaarkood arrinta labaad waxa weeyaan dadku intooda badan waxay xushaan ganacsi aan koboc samayn karin cimrigiisu gaaban yahay mustaqbalba aan lahayn ay xushaan iyaduna dhib bay ku tahay mararka qaarkood waxa iyaduna mararka qaarkood dhib noqota meelaha ganacsigeenu ku yaalo qofku marka hadduu ganacsiga cilmiyan u barto meesha hadda ganacsigeenu yahay ku dayasho waxa u fududaanaysa qofka intuu marketka isha mariyo inuu arko meesha fursadaha ku jiraan maalin walba waxa la publish gareeyaa data xog journal kasta akhridid TV kasta daawatid waxa arkaysaa signallo ku muujinaya meelo fursada ka jiraan qofku markuu awood u yeesho inuu signalada akhrin karo signalkiibu sii dabagelaya baaritaan ku sameynaya fikrada waxa jira dadkan iska dhaadhiciyaan oo qofku wuxuu u baahan yahay 50,000 100,000 pound suu ganacsi u sameeyo laakiin average hadda Ingiriiska 7,000 pound baa lagu bilaabaa sharikaadka average ganacsiyada 7,000 pound baa lagu bilaabaa waxaan u maleynayaa maanta qof Soomaali haddii 10,000 pound loo dhibo ganacsi sameyn kara waa yaryahay way ganacsiga lacagta waxa ka muhiimsan fikradda ayaa ka muhiimsan marka waxaan isleeyahay asbaabaha keenaysa ganacsigeenu inuu meel gaari waayo
asbaabta marka hore qofka ganacsiga ku kaliftay waxaa jira laba theory oo midna la dhaho bull theory midna la dhaho bush theory waxaa la yidhaahdaa koboca ganacsiga iyo meeshuu gaaro qayb ahaan wuxuu ku xiran yahay wixii qofka marka hore ganacsiga ku kalifay marka bush theory waxay tiraahdaa qofka haddii ganacsiga uu ku kalifay inuu shaqalaan ahaa wuxuu qabto waayey dadkao dhan wuxuu arkay ganacsi samaynaya ganacsigiisu badanaa meel ma gaaro bull theory waxa weeye qofka inay u muuqatay fursad window of opportunity waa u muuqatay hilaac baa u baxay waxbuu arkay qofkaasi badanaa ganacsiga meel buu ka gaaraa qofka hilaacu u baxo waa qof wax akhriya waa qof barnaamijta ganacsiga daawada waa qof marketka isha ku haya oo arki kara ganacsi kastoo soo kobcay waa qof la socda trendiga dadka iyo isbedelka baahidahooda iyo noloshooda waa qof dadka intuu segmentation ku sameeya kala qaybqaybiyo dhahaya dadka waayeelka baahidooda maxay tahay dhalinyarada baahidooda maxay tahay groupkan baahidooda maxay tahay ama economic ha isticmaalo ama da ha isticmaalo ama gender ha isticmaalo ama culture ha isticmaalo isku daya group kasta baahidooda iyo suu dabooli lahaa marka maxamed waxaan isleeyahay asbaabaha keenay ganacsigeenu inuu meel gaari waayo waxa weeyaan kuma salaysna cilmi markaan buugaa qoraya furaha ganacsiga Dubai iyo Kenya data aan ka soo ururiyay less than 3% dadka Soomaalida ay jooga meelahaas ayaa awood u leh inay buug cilmiga luqadan Soomaaliga ku akhriyaan dadka Imaaraadka jooga Carabi suuq waa ku hadlaan laakiin less than 3% ba awood u leh buug cilmiga oo luqada Carabiga ku taala dad ganacsiga ku jira intay soo qaataan inay akhriyaan qofku marka ilaa awood u yeesho ilaa buug cilmi akhriyo si ganacsigiisa oo journaalka cilmiga u fahmo oo barnaamijka cilmiga dadku newska iyo waxyaabaha baseka iyo communicationka baseka way fahmayaan muddo joogeen Kenya saasoo kale qofka maswaxilo ku hadlo ama English ku ganacsado wax yar ayaa awood u leh inay buug cilmi intay soo qaataan Ingiriiskana waa sidoo kale qofku buug cilmi u fahmo minimum English kiis waa inuu san GCSE ka hoose level 3 waa inuu yahay markaas awood u yeelan kara qofku buug English oo cilmi intuu soo qaato inuu fahmo marka waxaan leeyahay asbaabaha ganacsigeena ka dhigay hagaas ay la kobci waayeen waa qaab asbaabteena marka hore ganacsiga wax xolana wax ka khaldan yihiin aqoonteenu leenahay ganacsiga khaldan meelaheenu degnaa khaldan waxa jirta concept la dhaho break out ganacsigaagu horumar gaari maayo ilaa aad target gareysid mujtamac kale oo aad ka baxdid ethnic inta yarta oo kula bahda oo aad target ka dhigaysid Soomaalida dakhligoodu waa yaryahay way ognahay intooda badan income-koodu waa benefit purchasing power-koodu waa hooseeya marka qof isdhaqaalihiisa noloshiisa hooseyso haddaad tiraahdo target baan ka dhiganaya qaabkiisuna uu yahay uu ku dhaqshaqaysto deyn inaad meel gaaray waa ogtahay compare to haddii aad target ka dhigatid ummadaha qaarkood population-kooda badan Asiaanka oo kale waxaa laga yaabaa hadda inaad aragtaan dukaamada oo cidiyaha lagu rinjiyo dadka u badan lama taqaanaan waa Vietnam laakiin dadka cidiyaha rinjiya Vietnamese ma waa cadaan waaye maqaayadaha restaurantiyada hadda ugu badan Bangladesh baa leh indida waa Bangladesh ka badan laakiin maaha marketka Bangladesh waxay ku sii jiraan marketka cadaanka maxamed oo hogaamintu waa saameyn qofka hogaamiyaha waxaa jirta sida xisaabta fiisigiisku ay u leeyihiin xeerar ayaa hogaaminta raaxulada xeerar waxaa jira xeer la dhaho the law of influence xeerkaasi wuxuu yiraahdaa hogaamiyuhu inta uusan dadka wax ka dalban waa inuu dego maskaxdooda iyo maankooda qalbigooda waa inuu dego hogaamiyuhu marka uu dego dadka qalbigooda uu saameyn ku yeesho noloshooda wax kasta uu sheego way qaadanayaan the law of influence dadku inay hogaamiye akhriyaan waa ku khasbayeen waa sax laakiin hogaamiyuhu hadduu noqdo hogaamiye caadifi ah oo dadku hadba say wax u rabaan dabcan inuu wax ugu dhigo beer buu isu sheegayaa qiyam يعني بوجه هجامنت وحكر كذا كوسا جهية ميل كستا جوكسيد نورث بقول شيء يا صوما نك هجاميها وإنه له قيم عن سبدلين مركزته دنا على صحة المامي هجاميها رنتي غانا أما أنا ذا له تعدى وحن هو السفوين كوناكسن هجاميها له حتى مركه ردتك هذي دحان وهرير هبل ولا جشك سيء هاي آخر كوي آمنيا consistency جوكتين hogaamiyuhu marka hadduu yahay hogaamiye u eke maalmuun shaar beena gashanaya hadhowtana maaskigii baa ka dhacay runtiisa loo tagaya laakiin hadduu yahay hogaamiye dhab ah wuu joogtaynayaa dabeecadaha wanaagsan qof kasta oo marka hore ka shakisanaana aakhirka wuu raacaya hogaamiyaasha adduunka saameynta yeeshana ogowna hogaamiyaasha ugu saameynta badnaa adduunka ee zamanadan dambe 100 sano u dhameeyay intooda badan waxay ka soo baxeen duruufo kuweena ka daran ayay ka soo baxeen duruufo kuweena ka daran bay ka soo kuweena ka liita ka dhaqaalo hooseeya ka burbursan bay ka soo baxeen markaasay jiheeyeen meel gaarsiiyeen
marka waxaan is leeyahay waa dhab sax way dadku way ku akhrinayaan way ku xukminayaan laakiin su-aashu waxay tahay adigu haddaad tahay hogaamiye saxda ahaa aakhirka adaa guulaysanaya haye idinkaan ku soo celiyay دكتور هلا أنبشيولتي marka waxaa tiri Soomaalida wax badan cilmiga ganacsiga ma akhriyaan laakiin waxaan rabaa ku weydiiyo boqolaal sano kambaniyaal jiraad arkaysa adduunka cilmiguna waa isbedelayay oo dadkii kambaniyaasha McDonald lamida abuuray waxa laga yaabaa cilmiga maanta la haysta aysan haysan Soomaalida ganacsato badan oo caan ah jirtay xilliga dawladda maantana waxba laga aqoon maantana ganacsato kala jirta adoon cilmi kaliya lagu saleyn maxaa keeni kara inaan ganacsigu uusan ka harin qofka asaas in la helo in shirkada qofkii uu founder ahaa kaliyahay magaciisa lagu xuso laakiin sustainable oo dadka aqoonta leh oo kale laga faa'iideysto nasil qofkii inuu buuga cilmiga akhriyo cilmiga asagoo barto in company asaasi laakiin inuu ummadii kala aamino oo dad shaqaale oo company ummadii dadkii asaasi mooyaane dad kale ay rangarayaan Soomaalidu sidee ku gaari kartaa ama santa fashilku laba loo kala saaraa asbaabo badan buu ku yimaadaa midna waxaa la yiraahdaa shirkadda dibadda kaga yimaada waa external midna shirkadda gudaheedu ka yimaada hadda adiga arrintaa sheegtay waa arrin aan fashil ahayn laakiin misal dhinaca fashilka discontinuity in businesskii uu generation ka gudbi waayo uu gudbi waayo generationkii labaad waa arrin aqoonta ku soo laabanaysa waayo sharikaadka cimriga yeeshay oo dhammi waxay leeyihiin wax la dhaho yani sidii ay uga gudbi lahayd jiil oo uga gudbi continuity sidii ay uga gudbi lahayd jiil oo uga gudbi lahayd jiilka labaad policy bay leeyihiin marka hore ka fikirayaan systemka ay u xulanayaan structure ku yeelanayo waxa soo dhanba waxay qaab ka noqonayaan inuu ganacsigu meel ka gudbo generation ka gudbo oo gudbo generation labaad ganacsiga yar baan ka gudba hadda waxa laga yaabaa Forbes inaad ka wada haysaan 500 markii hore la sameeyay boqolkii company ee lagu aasaasay yani boqolkii company ugu weyn xilliga la sameeyay Forbes 100 1980 baa dib loo fiiriyay 17 kamid ayaa ku jira liiski horta maqan 70% waa dhinteen boqolkiiba 7 waa dhinteen 17 wali waxay ahayn company waaweyn dhowr iyo 10 way ka baxeen liiska companyada waaweyn marka waxa la fiiriyay dhowrkii company ugu waaweynaa wali yani liiska ugu waaweyn ku jiray mid kamida waxa ay shirkadkaasi kaga duwanaadeen shirkadka kale waxay ahayd leadershipka dadkii hoggaanka u qabtay policy-ga sameeyay systemka draft gareeyeen business model kooda ayaa ka duwanaa marka waxay dib ugu laabanaysaa aqoon haddii adigu aad samaysid yani inaad dhistid guri u babacdhigi kara dabaysha iyo roobka iyo waxyaabaha kala duwan oo 100 sano 200 300 sano 100 dhisan iyo inaad dhistid guri asbuuc dhisnaada labadaba waa laba guri Soomaa marka guri walbaaba wuxuu u baahan yahay engineering gooniya in cimiladii la fahansan yahay dhulkii la fahansan yahay materialka laga sameeyay businesskana waa inkastoo analogy khaldan uu yahay businesskana waa saas oo kale oo marka businesska la yagleelaya hadii foundation xoogan loo sameeyo marketkiisa laga fikiro continuity cidii sii wadi lahayd kambaniyadu hadday sii develop garayaan dadkii sii lead garayn lahaa 10 sano ka bacdi generationkii sii wadi lahaa hadda la sii develop garaya hadda la identify garaya markaasaa loo furaa trainino markaasaa la ay helaan mentoring dad haga ay helaan iyo coaching hadda la sii tababara moojida inagana Soomaaliya waxa tiraahdaa nin iyo ganac maalkiis ma kala haraan waayo qofkani isaga aha awoodda isaga aha aqoonta isaga aha xooga isaga un baa nidaamka yaqaani marka waxay dib ugu laabanaysaa arinta cilmiyeyntii ay dib ugu laabanaysaa maalinta u horeysa ilaa maalinta u dambaysa di businessku iyo business cilmiyeysan system leh structure leh business modelkiisu qeexan yahay uu develop gareeyo dadka sii wada lahaa qaabka loo structure-ka loo dhisay waxaan soo dhan qayb bay ka noqonayaan inuu sii dhisnaado way jiraan shirkad Soomaali oo falilah alxamdu 3 ilaa 3 generation oo kala gudbay mase badna iyagana waxay ahayd waxay haysteen license fududeynaya inay sii wadaan hadda daawooyinka kale shirkad baa jirta transportation kale shirkad baa jirta dhismaha shirkad baa jirta intooda badan waa meel ka baxsan Soomaaliya waxaan u maleynayaa dadka ganacsiga suuqooda ugu cimriga dheeraa waxay ahaayeen dadka reer xamarka ilaa 4 generation ee ganacsi la kala xalin la heli jiray iyagiina maanta asbaabo external oo ka badan awoodooda ka baxsan ayaa ganacsigoodii baabi'isay Somaliland waxaan aqaanaa ilaa 3 shirkadood oo generation saddexaad maraya intooda badan laysankii qaatay xilligii Ingiriisku joogay maantana generation saddexaad maraya marka waxaa jira shirkad laysan haysta laysankaasina uu keenayo qayb ka noqdo continuity marka waxay dib ugu noqonaysaa aqoonti haddii businesska marka hore lagu saleeyo si cilmi ah
continuity-ga jiritaanka businesska iyo siduu ugu babacdhigi lahaa isbedel kasta oo dhaqaale waxay qayb ka noqonaysaa business modelkiisi haddii kale dabaysha u yaroo timaada u horreysoo timaada ayaa gees u ridaysa jahwareerkii dhaqaale markuu yimi ganacsiyadii iyo sharikaadkii foundishakadu usan xoogga lahayn oo dhan dabayshii baa qaaday sharikaadkii foundishakadu xoogga lahaa business modelkooda uu strongiga ahaana way jireen marka wali waxay dib ugu laabanaysaa aqoontii bay dib ugu laabanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم سيد واد ماسنتاhay su'aasheedu runtii waa mid kooban waxaan ku soo koobayaa informationka sida loo kala heli lahaa dabcan dariiqyada qofku ku korsan karo waa cilmiga ama waa inuu tagaa lecture uu koorso qaataa seminar ama waa inuu book akhriyaa ama inuu helaa consultation oo talo la siiyaa intaba qofku uu ku heli karaa maxaa sababay in waa laga hadlay dhibaatada haysadka Soomaalida oo ah inay wax akhriyaan buugaagta Soomaaliga lagu qoro khaasatan qofku xataa arinta kale oo jirta waxa way maxaa sababay in ganacsatada Soomaalida xataa shirkadaha waaweyn oo isdhihi karo wax way fahmi karaan in ay qiimo weyn u yeelin ama aysan garan faa'iidada ay ka heli karaan consultationka iyo seminariyada maxaa si lagu bedeli karaa dhinacyada laga magaranaysa laga geli karaa laga tusi karaa in tan ay faa'iido ugu jirto waa su'aal oo dhabaantii challenge ah waayo waan tijaabiyay farqi weyn baa u dhaxeeya sharikaadka medium size ka kuwa weyn iyo sharikaadka yar sharikaadka medium size ka iyo sharikaadka waaweyn consultationka iyo trainingada aad bay u raadiyaan wali ha yaraadeen ha koobnaadeen wax badanna waxay ku xiran yihiin teamka shirkadda madaxda u ah odayaasha u ah fahankooda ganacsiga iyo aqoonta ay ku xirantahay wax badan ku xiran yihiin haddii kamanigu uu fahmo haddii ay staffkooda aqoontooda wax yar sare u qaadaan in productivity-goodu sare u kacayso 10-20% ama profit-koodu sare u kacayo 20% way samaynayaan laakiin intooda badan waxaa laga inaysan ba ogeynba muhiimadda ay leedahay trainingku ama consultationku inaysan ogeyn in research loo sameeyo hadda arrin azma ah oo naxdin badan baa maalmaha laga sheekaynaya oo ah arrinta xawaaladaha marka laga hadlayo fashilka waxaan dhahay fashilku waa labo midna external shirkadda kaga yimaada midna waa internal externalku waa in shuruucda la bedelo waxba kama qaban kartid barakaat waxay u xirantahay because of external hal mar baa shuruucda la bedelay waa la baan baa la saaray waxaa kamid ah financial crisis oo kale waa external saameyn ku shirkad walba awood ay ku maareyso ama ku bedesho ma leh laakiin shirkadka medium size ka iyo shirkadka waaweyn intooda badan waxay leeyihiin unit oo risk assessment iyo data collect gareeyo oo meel kasta oo risk uga iman kara shirkadaas mustaqbalka ka sii fikira oo hadda xal u sii raadiya internalka midda ka timaada waa aqoon darro waa musuqmaasuq waa khiyaamo waa waxyaabo lamid ah marka hadda externalka dhibtaan xawaaladeena ku soo socotaa xawaaladeena qaar badan oo medium size ku jira awood ma uu yeelan waayeen inay 10 sano ka hor signalka maalintii barakaad la xiraayay shirkadku dhimi way ogaayeen regulationkii la soo saaray in maalin ay noqoto ay saameyn ku yeelan doonto shirkadka xawaalada Soomaalidu oo dhan way wada ogaayeen awood ma u yeelan waayeen inay develop gareeyaan business model buuxin kara baahida looga baahan yahay intee in leeg bay fahamsan yihiin iyo waqti intee leeg bay geliyaan iyo dadaal intee leeg bay geliyaan inay xal u helaan inay horta fahmaan riskiga ku soo socda businesskooda inay fahmaan sida uga sii taxadari lahaayeen ilaa haddaad ogaatid dhibta soo socota way wada raadinaysaa haddii laakiin aadan ogeyn asugto ilaa intuu dabuhu ku dhaco dee markaa adiga iyo nasiibka waxa kala kulantay marka waxaan isleeyahay waxaa jirta faham darro fara badan oo muhiimadda ay leedahay research in loo sameeyo shirkadku wali waa faham darro fara badan baa jira waliba waxyaabihii aan ogaaday waxaa ka mid ah markaan buugaan qorayay waxaan islahaa mararka qaarkood dadka aqoontoodu sarreyso shirkadkay maamulaan the more willing in ama consultation loo sameeyo ama research loo sameeyo ama shaqaalada ay train u diraan marka barbardhig lagula sameeyo dadka aqoontooda hooseyso Soomaalidu mararka qaarkood waxay isdhahaysaa aqoonta waxba ma kordhiso qofka Soomaaliga waa qof Soomaaliya wajida wadaadadu waxay yiraahdaan alla ka baqiyo maxay ahayd iyo rag iska cilmiyeed ma wada galaan Soomaa haddii ay duruuf timaado qofka aqoontu dhan waa hilmaamaya marka niyo waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin dhabaantii Soomaaliya way ka yar duwan tahay shirkad badan baa dareemay ahmiyadda ay leedahay training ama consultation ama research oo dareemay haddii ay helaan training staffkooda haddii aqoontoodu sare u kacdo in productivity-gooda sare u kacayso wax soo saarkoodu in faa'iidadoodu sare u kacayso in efficiency-goodu sare u kacayo meesha 10 qof shaqayn jirta 5 qof ay ka shaqayn karto oo cost saving fara badan
in riskiga inay fashilmaan ay yaraanayso. Shirkad badan baa dareemay oo hadda time fara badan geliya ee tababarada iyo consultationka iyo daraasadda wali way yaryihiin. waxaan is leeyahay ciladu waxay noqotay mararka qaarkood dimaanka iyo supply-ga ka soo hormara. innaga supply-ga aad u yaraa markii hore ayaan is leeyahay in horta la helo dad trainers iyo shirkadka hadda jaamacadaha ku baahay Soomaaliya oo meel kasta ka furan wax weyn bay tareen. waayo shirkadkii waxay dareemeen shirkad badan ayaa waxay dhaheen maalintii qofkii u horeeyo jaamacad ka soo baxay ay shaqaaleysiiyeen waxay dareemeen waxay arkeen wax uu soo kordhiyay ayay arkeen. marka shirkadu way ku dhiiranaysaa inay misal qof kala shaqaaleyso qof saddexaad shaqaaleyso way ku dhiiranaysaa. laakiin shirkadku intooda badan aan marka horeba system lahayn ma dareemi karaan goortay khasaaraan qaar badan oo kamid goortay faa'iidaan. waagi hore waxaa la isdhihi jiray shirkadku dumarku maamulaan ayaan aqoon u lahayn faa'iidada iyo khasaaraha ragguna waxba kama duwana. Kenya oo kale almost wax ku dhow 30% dadka maamula shirkadku way ku adag tahay inay dul istaagaan khasaare iyo faa'iido. qofka ganacsigu inuu aad u soconayo wuu dareemi karaa inuu aad hoos ku dhacayna wuu dareemi karaa. laakiin dad yar baa break even point-ga markaas uu leeyahay aleele markaan meesha gaara wixii ka dameeya faa'iidaan sameynaya dad yar baa dareensan. dadku intooda badan faa'iido aan jirin bay xisaabsanayaan. qof baa laga yaabaa inuu ku yiraahdo ganacsiga 2 sano hore mushaar lagama qaato tusaale ahaan mushaar laakiin kama fikirayo isagoo hadduu shaqo tagi lahaa waxa laga yaabaa qofkaas 20,000 pound inuu soo xiran lahaa Soomaa 20,000 pound waa opportunity cost waa inay cost ahaan uga go'do shirkadii. haddii kale profit-ka tirsanaysid 10,000 baa laga inuu profit-kaaga sanadkan. laakiin market ka shaqo tagi lahayd 20,000 aad shaqaysan kari lahayd loss baa ku jirta marka 10,000 soo maaha 10,000 loss baa ku jirta. marka dad badan baan dareensanayn cilmiyan khasaarihi iyo faa'iidadii oo leh ganacsiga marka hore intuu kacayo mushaar lagama qaato oo dadka qoyska ay kala shaqaynaya waxyaabo badan baa jira marka. laakiin waxaan leeyahay hadda wadanka gudihiisa dareen baa ka jira oo ay dareemeen shirkadku muhiimadda ay leedahay iyo waxtarka ee tababarada iyo la talinta iyo cilmi baarista wali wuu yar yahay. laakiin waxaan is leeyahay dhinaca kalena markii hore supply baan jirin ma jiraan ilaa hadda magaziino ganacsiga ka hadla. TV-yada Soomaalidu TV barnaamij ganacsiga wali ma aragteen waa yar yahay ma jiro barnaamij ganacsiga. haddii uu jirana waxa laga yaabaa BBC-da iyo inay marmar soo daayaan maanta kiishka bariiska wuxuu ahaa intaas kiishka burka intaas ahaa iyo shilin sarifku intaas ahaa kaliya cid ka hadasha. laakiin cid ka hadasha ganacsiga ama dhaqaalaha ama maaliyadda way ma arkin wali businessyada wala TV-da ku arkin wala raadiyaasha ku arkin wala magazinada jiray. marka dadka intooda badani maba ogaba in wax ka maqan yihiin. marka waxaan is leeyahay waa in la abuuro awareness. waxaan is leeyahay hadda hay'adda Somali Economic Forum halkaana way isku dayday waayo mid kamid ah waxyaabaha ay energy-ga geliyeen waxa kamid ah in la helo data xog in la helo. maanta Soomaaliya cilmi baaris kasto laga qoro waa estimation income-ku waa intaas GDP-gu wax kasta waa estimate figures dhab ah. maanta inflation-ka imisa Soomaaliya hadda tirahdid ganacsiguna ilaa uu helo data sax go'aan ma gaari karo ilaa aad ogtahay qofkii dakhliga soo gala. markaan ogaado intiinaan qof walba dakhliga soo gala marka 100 fikradood baa igu soo dhici kara waxaan ka gadi lahaa. waayo economically category baan idin gelinayaa. category-ga waan aqaanaa baahiyahooda meelaha wax ka soo gataan waan aqaanaa qaabka u fikireen waan aqaanaa inta jeer holiday adan waan aqaanaa. marka way fududahay inaan develop gareeyo product aan ka gadi karo ama service ha noqoto ama product ha noqotee. Soomaaliya data male marka ganacsi shirkadda rabta inay maanta investment samayso wax ay base uga dhigto ma bahelaysa. waa imisa income-ka dadka soo gala GDP-ga waddanka waa imisa inflation-ku waa intee sarifka waxyaabaha warba lagama hayo waa estimate ilaa hadda lama yaqaan population-ku intuu yahay let alone dakhliga dadka soo gala iyo inta guriga qoys ku nool iyo waxay ka marka ilaa hadda cilmi baarista lagu sameeyo dadkeena asbaabaha keenana inaysan dadku ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay cilmi baarista iyo tababaradana taasaa ka mid ah. marka waan ogahay Somali Economic Forum inay already bilowday isku dayo inay meelo badan xog ka soo ururiso. laakiin waxaan isleeyahay the more data ay timaado the more yani waa aragtay mararka qaarkood marka masaa'isha qaarkood laga hadlo qofku caafimaadka kale haddii aad daawatay barnaamij caafimaad oo dhakhtarku wax ka sheekeeyo waxaad tahaysaa warama bahasha qabtaa marka laga sheekeeyo oo symptomskii dhakhtarku ka hadlaya qaar kamid ah iska dareetay. waxaan isleeyahay haddii dadka bombardment macluumaad ku saabsan ganacsiga iyo datadan la siin lahaa way dareemi lahaayeen way ku baraarugi lahaayeen wax badan baan u hagaagi lahaa. oo hadda khasaare fara badan fashilku shirkadka Soomaalida oo ku badan yahay. inaga waxay dadku ku baraarugaan oo kaliya markii shirkad weyn dalsan oo kale ama qaran oo kale ay fashilato kaliya lagu baraarugaa. laakiin fashilku ganacsiga Soomaalida aad buu ugu badan yahay marka mid kamid ah asbaabaha inaan la ogeyn waxa weeye data yar xogta yar macluumaadka yar
marka damoor dadka information la siiyo iyo wacyigelin damoor ay soo baxaan magaazino damoor la helo raadiyaal damoor la helo buug dadkuna way fahmayaan markaasna waxaan isleeyahay wax abuurmaya market aniga hadda waan la kulmaa mararka qaarkood oo demand waa ka helaa Soomaaliya oo shirkado ay la soo xiriiraan hay'ado ay la soo xiriiraan qof waa la soo xiriiraan oo daneynaya laakiin wali way yirihiin waxaan isleeyahay marka haddii la helo macluumaad fara badan suuqa la geeyo dadkuna way fahmayaan in wax ka dhimayeen waa in horta aynu develop kareyno mastarado dadkeenu isku cabiraan okay haddii hadda sektarada Soomaaliya aan kala qaybino 5 sektor aan ka soo qaadno telecommunicationka remittancyga oo sektor walba aynu sheegno faa'iido walba sanadkii walba faa'iidada average-ka aynu soo sheegno Soomaa aynu sanadkan faa'iidada average-ka telecommunication waxa 10% kambanigi marka waxa istaa mastarada isku cabiro haddii 10% ka hooseeyo faa'iidadiisu waa inay weliteen Soomaa hadduu 10% ka sareeyana waa fiicnaa arrin kale oo qayb ka noqoto oo shirkadka waxba ku baraarugsanay waa board of directors-ka ayaan laftigood helin tababaro ku filan iyo macluumaad sax cidii maamulkan la xisaabtami lahayd wuxuu sheegi lahayd qaban lahayd baan jirin marar badan oo aqoon darrada jirta marka waxaan isleeyahay more la helo macluumaad dadka la gaarsiiyo more la develop gareeyo indicatoro more halkuna uu fududaanayo jazakumullahu khayr waxaan isleeyahay waa daasheen waxaan isleeyahay barasho wanaagsan walaalihii abaabulay Sheekh Umar jazakumullahu khayr shahaadan iyo arinta oo ah de qofkii commercial daneynaya waa inaan gooni wada fariisano albaabkaas waa furan yahay laakiin haye inta aan ka bixin waxaan jeclahay dhawaantii dad badan baa la gurmada qoraalka iyo qorayaasha marka laga soo tago abtadoon iyo xildhibaan intaan isku baxdanahay warbaahinta khayr Allah siiyo warbaahintu waa saaxiibka ugu weyn aan leenahay warbaahinta Soomaalidana waxaan isleeyahay hadda rag badan baan ka bartay laakiin jazakallahu khayr waxaan isleeyahay waa inaanu dadkeeda qorayaasha Soomaali pen haddana abtidoon waa jooga gudoomiye waa inaanu sameeyno abaalmarin yani meediyaha ugu supportiga badnaa qoraalka iyo wariyihii ugu supportiga badnaa qorayaasha waxaan isleeyahay anigu cali aar wali qof lamida ma arkin ma jiro book Soomaali ku qoran ilaa wuxuu ku sheegayaa ma aha inuu akhriyo kaliya in detail buu akhriyo cali aar waa Kalson TV way fiicnaan lahayd bahda warbaahinta oo dhan iyo dadkeena oo dhan inay rabitaan iyo xiise qaabkaas oo kale intay u yeeshaan yani markuu qofku aad dareentid inuusan buuga kaliya usan akhrin laakiin context wixii ka dambeeyay uu isku dayo between lines inuu akhriyo uu isku dayo inuu cabiro sentence-kan markaa qoraysa wixii maskaxdaada ku jiray analyze gareeyo iyo qofka ciwaanada kaliya fiiray iyo jilda kaliya fiiray isku mid ma aniga intaan arkay amaanina way hadda cali aar meesha joogo rag badan media badan ma la kulmay laakiin cali aar khayr Allah si waa yariyahay buug qoran Soomaali oo san akhrin oo san fahmin si cilmiyana marka waxaan jeclaan lahaa hadda gudoomiyihii waa noo jooga chapterka London UK waxaan jeclaan inaan develop gareyno abaalmarin aynu cali aar iyo rag la midka aynu si inaga kaliya ma aha in la dhigeliyo waa inaynu saas oo kale dadka hiil iyo hoogaba la garab taagan qoraalka oo dareemay ahmiyada ku fadhido iyaga laftigooda waa in hiil iyo hool la garab istaago waxaan Cabdullaahi baan siinaya insha Allah kelmad oo dambaysa ma horta mid waa talo aan tii hore idinku celiyo midna waa talo oo waa in haddii aad meelahaas hadda wax laga helo Amazon-ka iyo eBay-ga oo kale la gelin karo dadka halka jooga dadka aan halka joogin ama bugaagta guudba haddii la heli karo in adiga waaba lagu hayaaba inta kaleeto maanta dabcan gudoomiye ku-xigeenka qaybta UK iigu horeyso Somali Ben laakiin haddii la heli karo waxaa jira program aan wadno oo ah Somali Database Center diiwaan la yiraahdo oo diiwaan.com iyo diiwaano leh waan isleenahay 3 meelood oo hadda for example Somaliland Hargeysa oo kaleeto Puntland oo kale Boosaasan ka wadno iyo Muqdisho iyadana maartay aan rajeynayno biidmillaah alkareem December inuu ku soo aado kii ugu horeeyay marka haddii laga heli karo meel lagu ururiyo amaba mid direction-kooda ama hal meeloo lagala xiriiro ama Djibouti ha noqoto ama halka noqoto si markaas anaga aan u sii facilitate gareyno inaan bal maaragtay isku dayno inaan ama reseller anaga gaar aan u yeelno ama aan waxyaabaha hadaan isticmaalno aan maaragtay uga faa'iideyno marka diita la heli karna iyadana bal in maaragtay dadka laakiin talada ugu muhiimsan waxa weeye inta wax laga gaarayo qof walba waxa u sahlan dadka galbeedka jooga inuu Amazon-ka isticmaalo ama eBay-ga bishii 12 gini wax la mid ah dadka ka qaaday assalaamu calaykum in la sameeyo hal website oo buugta ku urursan tahay waa beautiful hadda way jiraan hadda Somali Week oo kale oo lagu qabto
Oxford House qoryaal badan baa yimaada sanadkan waxaan u maleynayaa 18 October ku beegmaysa rajeynaya qoryaal badan baa yimaada waa meel aad ka bilaabi kartaan marka database waa fudud yahay in la sameeyo buugtii waa market faa'iido leh haddaad business aanu geliso xataa laftigiisa culayska naga dulqaadaysid intaas waa kugu daraya haddaad ka naga dulqaadaysid waa market faa'iido leh laakiin anaga hadda hawshii oo dhan baa hal qof ku dhacday marka qof walbaaba ilaa xad buu socon karaa haye waxaan siinayaa ducaale soo gabagabeyn fadhiya saddexdeedu waxaanu ka midnahay Carlton iyo dadka Soomaalida jecel inay wixii Soomaalida anfaca inay soo bandhigaan adna waan ku ognahay qoraab weyn baa tahay runtii bulshada wax badan ugu fadhiya diyaar baan ku naadaan soo wacdo tira tomorrow ama weekend waxaan qabanayaa barnaamijkaas ii baahiya aniga every time aan studio fadhiisto oo aan present gareynayo aan ballan qaadayo inaan ereyga ugu horeeya iyo ereyga ugu dambeeyaan dadku xasuusan lahayd buugta halkaas taala barnaamijka halkaas loo qabanaya saas loo qabanaya si ay dadku u ogaadaan waayo taxa ii soo dirtay moogiyi ma aan ogaan karin marka waa muhiim ummadeenu inaan wixii wanaag u keenaa inaan soo bandhigno qof kastana yani saciid kaliya ma laakiin qof kasta oo doonaya inuu wax baahiyo waa wax muhiim sababtoo ah waxaan ka dhimanay maanta waa wax la akhriyo buugtuna waa very important wallahi been ma sheega intaan buug akhriyo yani haddaan quraanka akhrin lahaa yani quraanka wax xifdin lahaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isaaladaas aad waa mahadsantahay aan ka walwalsanahay dhaqan aanu leenahay jirta in madasha tan ay noogu dambayso oo aan madalahan oo kale aan dib loo helin see adiga iyo saaxiibka ninka odayga Ben u fadhiya meesha tan waa dilanahay oo dilaanshuhu xaggii waxaa laga dilan yahay xag walba macnaha dadkii halka deganaa dhaqaalihii diintii garashadii dadkii garashada lahaayey haddii ay godad galeen oo aan madashaan oo kale aan la iman oo qofku waa nool yahay waa qof bini aadana weelkiisu wax waa qaadaan laakiin wax loogu rida ma leh marka walaalayaalow siday suuragal ku tahay in meelaha laga dilan yahay hadday ganaca noqon lahayd hadday garasho noqon lahayd hadday fakar saroo ilaahiya noqon lahayd madalahan oo kale continuation sideen u daa'imi karnaa maxaase tala aad haysaa si cala alaqal xataa haddii ganaca la wada aado oo maaragtay ninkii doonayay inuu waxaa sameeyo qaab joogtayn ah oo madalo noocan oo kale xataa aanu lacaga la baxno bishiiba hal mar ha la yiraahdo ha la isu yimaado nin walba 20 gina soo qaato wax tala ama haysaan oo arrimahaas si garashadu bal u kobcdo loo walaaloobo dhibka aanu ku jirnana looga baxo dhawaantii qofku marka uu buuga soo saaro qofka marba xanuun ku bilaabmaa rag badan xanuunka ugu weyn wuxuu ku bilaabaa markii buuga soo saaraan meel ay ku xiriyaan ay waayaan fikirkaagu waa fikir dhawaantii aan soo dhaweynayno anaga dadaal laguma yara laakiin waxa laga yaabaa ninku markuu buuga dhameeyo inuu mid kala galo circle-kii oo galo average-ka maalintii 12 saac ama 13 saac qol ku xiriyay laakiin waan hubaa haddii aynu samaysano calendar bilaa anagu waxaan isleeyahay kaayaga meesha ugu fog jiray iyo kaaga meesha ugu dhow joogaa baa imaanayna annaga kharashkayga soo qabna xataa fikirku waxa weeyaan hadal hayskii markii dhoweyd ma ujeedaa sidee dadka asaageen uusan noo ka tegin inuu asaageen u gaarnaa ama ha noqoto jaanib diiniya ama ha noqoto jaanib aqooneed ama ha noqoto jaanib ganacsi ama ha noqoto jaanib luqo ama ha noqoto jaanib culture ha noqoto su-aalaha inaan isweydiin waxa weeye maxaa keenay dadkeenu inay dhaqankooda lumiyaan dhaqankeenu qeexid ma leeyahay waxaan isweydiinaa dad waxaa jira jibsi la dhaho oo weli dhaqankoodii ku adagay luqadoodii oo misana geedi ah intaas xataa meel aan deganayn guryo aan lahayn ilmahooda iskool dhigan model la yaab leh inagana qofkii shalay yimi baa laga yaabaa inuu wax badan lu iskareeyo waxyaaba u baahan in dadku wada hadlaan annaga dareen baa laga yaabaa inuu nagu badan yahay maadaama qofku waxaan jihadan u batay waxa laga yaabaa inta aan xog ururiyo ama macluumaad aan akhriyo ama waxaan hayo inay xoogaa ka buuranta in dadka Afrika hayaan haddii marka intaan soo qaabay aan soo bandhigo
waxay bays u noqon kartaa dialogue dhex mara dadka iyo qorayaasha wax ka soo bixi karaan marka anagu waxaan isleeyahay gudoomiyahana hadda waa ku wareejin doonaa fikirkaas waa nagu jiraa laakiin waxaa mar walba naga xoog badinaya in walba suu leeyahay warbuug baa igu bargo-an iyo mawduuc kale baa dhibaato iga haysataa yani hadda ku sheegayay sanad ku dhowaad waxaan ku jiray macluumaad mawduucaas caalamka iyo 2050 almost hadda 100 dowladood ayaa waxaan soo ururiyay meesha higsanayaan ama 20 sano ha noqoto ama 30 sano ha noqoto ama 100 sano ha noqoto tii ayay noqotay marka inaan u jajabiyo ama qaarad ama mid walba waxay ka dhigatay hiraal ambition ka dhigatay iyo qaabkay rabto inay ku gaarto dadkeenu way hayaan dad sharaf jecel xor ah isla weyn waxaan hubaa mar dhow waxaynu gelaynaa adoonsi aynaan diyaar u ahayn ninkii islaha Ethiopia iyo Kenya dhul bay ka qabsanaysaa inaga ina qabsanaysaa mar dhow inagoo nool wallahi ama jeclow ama diid waa iyagu waxay samaysteen vision bay samaysteen wadaday ku gaari lahaayeenna way samaysteen Ethiopia waxay rabtaa inay noqoto wadanka ugu dhaqaale buuran Afrika aqoonta awoodda saaraysa hadda Afrika sanadkii inta engineer soo saaro taqaana iyo inta higsanaysa 2030 soo saarto mar dhow waxay noqon doontaa wadanka soo saar engineerada ugu fara badan Afrika ay noqonaysaa waxay samaysay qorshe la dhaho qorshaha casriyeynta Ethiopia next 4 years $75 billion baa ku baxay maaha abka libis hadal maaha kaliya waa projectyo tangible waxbarashadii waxay ku sameynaysaa reform ku sameysay infrastructure-kii bay dhisatay siyaasad bay la timi waxaan ragu sheegaya wadan yaroo la dhaho Papua New Guinea 800 oo af baa looga hadlaa 800 oo af kala akhriya 800 languages baa looga hadlaa kun ethnic groups bay ka kooban yihiin iyo wax ka badan 800 luqadood qaar badan oo kamid ah xataa xiriir ma leh inaga iyo oramada waxa laga yaabaa ku shatiban isku nahayo maba kala foginba luqadaha 800 qaarkood xiriir ma leh maalin dhaweyd waxay soo bandhigeen vision 2030 ninka madaxweynahooda hordhac u sameeyay waxaan ku faraxsanahay buu yiri vision kan inay sameeyeen wiilashiini iyo gabdhihiini maanta ma jirto maamulka dhisan Soomaaliya ama institution ka jira Soomaaliya oo qof Soomaali la taliyo yahay marka waa lagu qabsanaya ama jeclow ama necbow anagu xanuunka iyo dareenka waan hayaa laakiin xalkii waa in horta fikradda sidii markii uu tala sheegay akhuna uu sheegay horta waa in message ku dadka u gaaro waa inaynu ku dhalato fikirka ah war aan dadaalno moogjeeda dadka ina ka tagay inuu ku dhasho fikirka ah arinta akhuna aadam waa soo dhaweynaya waana jecel abtidoonayna halkan yimaado anaga waa naga go'an tahay haddii reer London ahaan idinku aad sameeynaysan calendar joogta monthly oo aad dhahaysaan maalin northka maalin eastiga maalin southka maalin westiga ahlan wasahlan diyaar baan anagu nahay bal waxaan idinku darayaa ama ha jooga Canada ama ha jooga Australia ama ha jooga wadan kale oo Yurub ah inkastoo qoraa waa keenayna xalay waxaan la hadlayay nin la dhaho professor Spanish Spain jooga yani falilah alhamdu dhowr kan sano oo dambe waaga hore qoraalka xoog badan wuxuu ahaa taariikhda iyo suugaanka hadda waxa xoog batay taariikhda qoraalada cilmiga ah waa nin markii hore PhD geology ku sameeyay archaeology haddana PhD archaeology ku sameeyay 10 sano u dambeysay farta faraacinada ayuu ku maqnaa turjumay ninkaas wuxuu soo fagay wax badan oo ka yaabinaya inagu faraacina noqon mayno wajida wanaagna inoo ku soo kordhin mayso inay awooye rag aynu raad ku lahayn dibna inoo keeni mayso laakiin waa taariikh la yaab leh oo cilmi ah dadku invention daawooyin bay soo saareen oo Soomaaliya u baagooda ku noqonayo technology infant gareeyeen oo dib ugu laabanay Soomaaliya ugu laabanaya aqoon baa laga hadlaya aqoon wuxuu soo saarayaa geedo kuma nacno Soomaaliya hadda naqaano iyo midalba daawooyinka laga sameyn jiray iyo midalba si la isugu daweyn jiray iyo meesha root-koodu ka imaan jiray wuxuu ka hadlaya daawooyinka maanta wali dhulkeena ku yaala dadkeenu laakiin inay daawooyin ma yaqaanaan infection bay dadku dhimanayaan daawo 4,000 sano ka hor la isku daweyn jiray ayaana ku taala guriga agtiisa ku taala موجودة مركا يجو هذا أقون لعلمي أي هذا قرياش اللي هلية وأنك هاللين وكلية إنك استو تاريخ ذي السجان تيجي لقدنا عيتها بيسكي أو هدي لقدم ويا كواس قبل باكتين كم قرمان تاج يعني هذا زين ولا هاد يابتدوني آد سومالك عروتي إلى برتان وحكي قرا هدي عروتي سوالك برم ويا بوك تيجي حبت رميس وإنت أنا سنوين بينو هاري إنك إنه كوير صدق شركة صدق سنة كبعد ووايلوي هدي مركا عروتي سوالك برم ويدو بوك تيجي عمر يالن ميس موجودة
marka waa soo gabagabaynaynaa aquuna walaalkeen baan ku wareejinaa insha Allah kelmad haye jazakallah haye ma su'aal baa qabtay walaal haye cilmi baaris samaynayo oo daawo inuu soo helo matalan dabeecadda aadaya maarta dhirta iyo waxyaalahaas daawo soo helaya uu tijaabooyin buu samaynayaa wixii uu ku guuleysanayaa waxa wax ku ool wax taraya noqonayaan oo bulshada anfaco daawo saxa hadhow waxa imaanaysa in qoladan beesha caalamka la yiraahdo ama qolada caafimaadka uu la yiraahdo la dhaho waa in laga soo amar qaato wixii inay noo xaqiijiyaan inaan ku shaqaysan karno marka haddii rabaan weydiidi karaan halkaas macnaha waxaan kaaga leeyahay lama heli karo ilaa hadda xorriyad ah inaan cilmi baaris inta sameeyno wax ku guuleysano ay wixii noo meel maraan annagoo ka soo amar qaadan hay'adaha kale oo internationalka ama waxyaalahaas marka dhibtaas looga gudbi karaa iyada laftigeeda in adduunka caafimaadka iyo medicinka loo sameeyo regulation la isku waafaqo wixii dawo ah wadanta maslaxada bini'aadamka ku jirta horta yaan la sharaysan haddii loobi ahaan iyo siyaasad ahaan laynoo ka dheereeyay oo rag ay marketka xirteen waa inuu la nimaadno aqoonta inaguna aynu kaga daba tegi lahayn laakiin market xiran ma jiro hadda pharmaceutical industry wadanka adduunka ugu weyn hadda waa India maaha Yuhuud iyo galbeed maaha la socda waa India dawooyinka UN-ku ay leysan ka siiso wadanka adduunka ugu badan waa India muujeeda wadanka pharmaceutical adduunka ugu badan marka waynu samayn karnaa waxaan in regulation la sameeyo caalamka oo standardization la sameeyo oo caalamku uu noqdo isku midna waa maslaxada bini'aadamka dib maaha ama sidaynu u mari lahayn luuqyada oo aynu u fahmi lahayn systemka waa aqoonina ka dhimanayno heli karno ayaan dhihi lahaa waxaa haddaad ka dhawaajisay in Soomaalidu ay tahay si waxyaalo ganacsigooda uusan heer sare u gaarin waa individualism sidaa tirina waxa weeye buwaagtiga waxa u qortaan yani qof walba waxa weeye waqtigiisa uu kaligiisa qora kaligiisa publisher ah taas miyaysan samaynayn in muxuu ahaa haddii aan la helin muxuu ahaa yani consortium ama maaragtay isu tagtaan in aad maaragtay wax ka fara badan soo saartaan ama waqtiga aad siyaabo kale maaragtay uga faa'iidaystaan at the same time missionkaaga ma jira team aad maaragtay mentoring ku samaysay ama train garaysid oo tomorrow maaragtay kaala wareega raadadan muxuu ahaa kaliya maartay inaan ku aragno maasanid maadaama ay jiraan muxuu dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhigta oo wadankan maartay wax ka barta markaan wax qorno haddaanu mawduucan wax ka qoro waa mawaadiicda markii hore xilligii dowladda Soomaaliya ay jirtay erey bixintaan loo sameyn ganacsiga marka erey bixintaan u helo waxay noqotay inaan helo team dad ay la shaqeeya ilaa 20 qof oo macallimiin jaamacada ka ah oo Soomaaliga yaqaan luqadana cilmiyan u yaqaan baan kalmad kasta u diraa buug kasta dhabarkeeda waxa laga inaa ku aragtay dadkii soo akhriyay iyo kelmadaha ka yiraahdeen marka waa maraaxil bay mashaa marxalad yani haddana waxaan ka waramayay marketka publishing ku soo u weyn yahay anaga culeysku soo ugu dhacayo qof waayo hadda malihin buugga markaa qortay company intuu kaala wareego isagu dhahay anaa publish gareynaya marketing u sameynaya iibinaya adiga lacagta sheerkaaga ku keenaya ma jiro qof walba isaga noqonaysaa markuu buuggii qoro ragga saaxiibadiisa la akhriyaan inuu wixii marka context-ka ku timaasay ahayd context-ka kale ma ahayn anagu horta falilah alhamdu anu meeshan wixii aan ka bilaabay ugu horeeyay mentorre ahayd mentorradana buugga dhabarkiisa ku arkaysaa waayo mawaadiicda qaarkood fahamkaagu ilaa xad gaari mayo haddii aadan dadka ehelka waa theory kasta taqaanid applicationkeedii wax badan fahmi maysid rag waxaa jira marka jazakumullahu khayr academic oo Soomaaliya caanka ah oo noo ah aniga iyo base iyo tixraac reference oo asbuuci maraan ku laabto oo masaa'isha qaarkood kala fariisto oo mar aan u xireysto u safro u xireysto sidaas la mid ah message kan hadda buugga furaha ganacsiga oo kale dhabaantii Soomaaliya order baan u sameeyay sidii muqarrarka jaamacaadka uga mid noqon lahaa maadaama hadda aysan jirin hay'ado iyo dawlad dad badan shaqaaleyn karta in qofka Soomaaliga markuu dugsiga ka baxo intuu saxaraha aadi lahaa jaamacadda ka baxo ganacsi abuuran karo jaamacado badan baan hadda anigu syllabuska maadooyinka u diyaariyaa macallimiintooda aan train gareeyaa mararka qaarkood haddii aan chance helo aan tagaa oo macallimiinta ama soo train gareeyaa seminaaro badan baa online ku bixiyaa marka dadaal waa jira laakiin wali meeshaan rabnay uma dhawa dadaal waa jira jazakumullahu khayr wa aad baa u mahadsantihiin insha Allah ka soo gabagabeynaa